haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe saar si aad u daawato dhacdooyin xiiso leh. Ha ilaawin inaad like garayso videoga. aad baad mahadsantahay. bulshadii uu nebigu u yimi caynka u ekay si aad u garan karto inta ay guurtay bulshadani markii dambe siday u ekaatay. yani waxaad qiimayn fiican sawiri kartaa nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii uu soo saaray iyo mujtamacii muslimiinta ee kawanmay siday u ekaadeen inta uu u jiray mujtamacii hore ee jaahiliga ahaa. oo markaad ka jaahiliga ah suuradiisa aragto ayaad garanaysaa dadkani inta ay guureen inta ay leekay. waxaa kaloo runtii dhadhawaanayo aad garan kartaa maadaama mujtamac nooca u egba la raray oo islaamnimada ay bedelka intan le ku samaysay inaanu jirin mujtamac dunida ka mid ilaa in la rari karo noocan loo rari karo. ay ku xidhan tahay sida alla inoo waafajiyo subxaana wa tacaala iyo sida dadku juhdi uu bixiyo oo dadka diinta tan ugu yeedhayaan. qaybtaa hore markay ka warramayaan culamada taariikhda islaamiga ah qorta qaarba sibay u tilmaamaan. qaarkood ilaa aadam bay isku dayaan taariikh muujisa inay kasoo sheegaan. yani min aadam kutubu taariikh in badan oo ka midi nebi aadam bay kasoo bilaabaan. qaarkood waxay ka bilaabaan dhulka iyo cirka iyo sidii alla u sameeyey waa ka ilaa ay soo gaarsiiyaan. laakiin taariikhahaas hore ee qadiimka ah waxoogaaga yaree waxyigu sheegay mooyaane inta badani maxfuud maaha. sidaa awgeed labadan kitaabee horteena yaalla midba inbuu soo koobaya, laakiin waxay isku dayi doonaan inaan si fudud u wada guud maro. kow, ummadda carbeed iyo dhulkay degto waa dhul macruufa. carabina intan jaziira alcarabiya la yidhaahdo unbay taariikhdeeda oo dhan degi jirtay. carabta taariikhiyan markay culammadu qaybinayaan ilaa 3 qaybood bay ka dhigaan. carab ay yidhaahdaan waa alcarab albaa'ida ama carabtii tirtirantee hore ee gabowday, waa caad iyo samuud iyo kuwan qur-aanku ka warramo. iyo carab ay ku tilmaamaan alcarab alcaariba oo ah qaxdaaniyiinta nimanka la yidhaahdo carabta gasha. iyo carab almustacraba oo ah kuwii nebi ismaaciil calayhi salaam ka abuurmay ama cadnaan cidda gasha ah. inkastoo culammada badh ay leeyihiin qaxdaan iyo cadnaan labaduba ismaaciil bay galeen, waana sida uu rajaxaya ibn xajar alcasqalaani xafidahu llah raximahu llah. alxaafid ibn xajar waa sida uu rajaxayo oo isagu wuxuu leeyahay labada kooxoodba qaxdaan waa min aali naabit binu ismaaciil buu qabaa, halka ay qoladan kale ka yihiin cadnaan ibnu ismaaciil ay ka galayaan. marka aynu soo koobno had iyo goor taariikhda carbeed marka la tilmaamayo maalan qaxdaaniyiinta nimanka la yidhaahda asal waxa uu ahaa yaman. 2 qabiilo waaweynna waa u qaybsanaayeen, niman ximyar la yidhaahdo iyo niman kahlaan la odhan jiray. kahlaan inta badan waa guureenoo shaam iyo masar iyo dhulkaasi dadkii degi jiray markii dambe ayay u badnaayeen. ximyar intaa u badnaa dadka meesha tan kusoo hadhay. carabta kale ee mustacrabka ee cadnaaniyiinta loo nisbaynayo waa carabta markaasi nebi ismaaciil si dhaba uga afursata. nebi ismaaciilna waa ina nebi ibraahim calayhim assalaam. nebiyullaahi ibraahimna saynu taariikhda ku wada hayno dhulka ciraaq buu ka soo baxay ama dhulka ciraaq buu u dhashay, dabeetana falastiin buu u hijrooday, kadibna wuxuu yimi maka. halkan markii dambe laga sameeyey waxaanu keenay saynu wada naqaano xadiiskii bukhaari ku yaallay ibnu cabbaas uu warinaya mawquufka ibnu cabbaas ku ahaa siduu sheegayey. haweenaydiisii haajiro la odhan jiray iyo ilmihii ay dhashay oo nebiyullaahi ismaaciil calayhi salaam labadoodaasi ayuu maka keenay. dabeetana maka ayuu kaga tegey isagoo aan waxba uga tegin uga tegay oo qura sibraar biyo ah iyo mid timir ah, ama 2 weel oo midna biyo ku jiraan midna timiri ku jirto, oo u sheegayna inuu ilaahay subxaana wa tacaala amray inuu halkaas kaga tago. sida aynu taariikhda ku haynana waxaa la tilmaamaa ibraahim inta la hubo 4 jeer oo dambe ayuu meeshaasi kusoo noqday. yani markaa hore ismaaciil keenay, mar labaad ayuu yimi oo ah markan ay nusuusta qur-aanka ka warramaysa uu rabay inuu qalo ama inuu gowraco wiilkii ismaaciil ahaa. falama aslama wasallahu liljabiin وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. marka الله سبحانه وتعالى kaga warramayo oo ay qolada
kitaabka tawraad haysata ama kana iminka tawraad ku sheegaya sifru takwiinkoodana uu ku sheegaya inuu dhowr iyo 10 jir markaa ahaa nabiyullaahi ismaaciil mar labaadkii uu ku soo noqdayna waa markay axaadiista ka warramaysa inuu yimi oo dabeetana u yimi isagoo uu nebi ismaaciil ka maqan yahay gurigiisii oo gabadh uu qabay uu ugu yimi dabeetana uu weydiiyey xaalkoodii siduu yahay oo ay sheegatay markaasi in dhib badan ay haysato nolosha ay cidhiidhi ku tahay oo yidhi waa tegaya inankaygii fariintaa gaarsiiyo waxaad ku tidhahdaa aabbaha wuxuu ku yidhi casabada albaabka ama kaabada guriga iska bedel ayuu ku yidhi aabbaha nebi ismaaciilna markii uu yimi ay gabadhii u warrantay wuu fahmay aabbihii warkii uu uga tegay oo ahaa gabadhan iska sii daa mid khayr badan maahee dabeetana waa iska sii daayey waxaa kaloo riwaayadka xadiidku sheegayaan mar kale inuu ismaaciil yimi nebi ibraahim mar saddexaad inuu kusoo noqday dhulkaasi marka saddexaadna wuxuu yimi isagoo ismaaciil gabadh kale uu guursado sii hore u furay gabadhii kale markuu la hadlayna ee uu xaalkooda weydiiyeyna waxay ku tidhi waa fiicannahay iyana fariin buu u faray oo wuxuu ku yidhi waxaad ku tidhahdaa inankaygi waa tegayahay isagoo maqan markana buu yidhi oo safarkii jiro wuxuu yidhi fariin labaad يعني gabadhan hayso waraa buu uga tegey mar afraad bay taariikhdu sheegaysaa taariikhda sugan ee la hayo axaadiistiya qur-aanka oo ah markuu kacbada dhisayey uu ismaaciilna nin weyn ahaa isaga iyo ismaaciil markay kacbada dhisayeen 4 jeer bay yidhahdaa buu nebi ibraahim kusoo noqnoqday meesha iyo markaa hore uu kaga tegey taariikhda carabeed cumuuman markaynu tilmaamno nebigu calayhi salaatu wasalaam dee wuxuu ka tirsan yahay siduu axaadiista saxiixa ayba ku sugnaatay ilaahay wuxuu doortay buu yidhi nebi ibraahimna wuxuu doortay wiilkiisa ismaaciil ahaa ismaaciilla kanaana laga doortay kanaanana quraysh baa laga sii doortay qurayshna reer banu haashim baa laga doortay reer banu haashimna anaa layga doortay buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam markaynu taariikhda carbeed cumuuman eegno waxay iska koobnaayeen qabaa'il bay ahaayeen 3 meelood baa iyada boqortooye ka jiri jirtay boqornimo loo caleema saaro 3 meelood ayay iyaga ka jiri jireen waa boqortooyadii yaman ka jiri jirtay ee gabowday boqortooyada yaman oo waqtiyo kala nooca soo martay taariikhaha laga sheegaana runtii taariikha saawsi sugan maaha laakiin ilaa 4 boqortooyo oo kala dambeeyay baa la sheegaa oo midba muddo intaasoo qarniya intay socotay inay tirtirantay kuwa ugu dambeeyuun yaman waa ximyar qabiilka la odhan jiray oo ka mid a qaxdaaniyiintaasi say lahaan jireen boqortooyadoodii macruufka ahayd ee ay lahaan jireen boqortooyinkaa wuu sii dambeeyey oo culamada taariikh ay kusii tilmaamaan inay ahaayeen kuwii markaasi ugu dambeeyey ee ka jiri jiray waddanka yaman oo la soo gaadhsiiyey inay yihiin kuwii ay ka dhasheen markaa duunawaas nin la odhan jiro yahuudiya mar ka mida intuu qabsaday in najraan oo kristan ahaan jirtay ee lagu laayay waayo culammada qaarkood u nisbeeyaan inay tahay sababtii ay kusoo degtay qutila asxaabi lukduud annaari daati lwaquud ala kulli xaal markaan soo duuduubno yaman boqortooya ka jiri jirtay xiira meesha la yidhahdo ciraaq ka midana boqortooya ka jiri jirtay shaamna boqortooyo ayaa ka jiri jirtay xijaas iyadu marnaba boqortooyo caynkaasii kama jiri jirin imaarooyin baa ka jiray baa la iska yidhaahdaa laakiin boqortooyo rasmiya kama jirin markaynu soo qabanno magaalada maka oo ahayd magaalada aynu odhan karno ee taariikhda islaamiga ku weyn una baahan waxoogaa yar inaynu ka sheegno iyo qaab nololeedkeedii markiise aynu wada naqaano waa magaalo ku ooli jirtay meel buuraleeya oo 2 buurood hareeraha kaga wareegsan yihiin oo sida bil oo kale ay ku yihiin quraysh baana degtay meesha tan gaar ahaan qusay ibnu kilaab ninkii la odhan jiray oo ka mid ah quraysh nebiga calayhi salaatu wasalaam kuwa ku abtirsada ka mid ah qusay ibnu kilaab ayaa degay meesha tan qusay ibnu kilaab waxay dhahdaan waa ninkii koowaad ee awooda inuu googooyo dhirta kacbada iyo meesha xaramka ka baxda lama goyn jirin dadkuna inaan la goyn bay u haysteen haddana sharcigu saasuu qabaa laakiin qusay ibnu kilaab baa waqtigiisii gooyey baa la yidhi markuu googooyey ayuu dabeetana soo dejiyeyba xaramka gudihiisii markaas buu quraysh
kala tilmaamay meelo ay kala degdegto oo inay xaggan deg in kale xaggan dejiyey in badhan u dejiyey quraysh maalqabeenkeed iyo dadkeedii hantiilayda ahaa inta badan butxa u maka ayay degi jireen butxa u maka waa inta godan baa la yidhaahdaa ee kacbaduna ay agteeda ku taallo marka aynu eegno maka iyo maamuladeedu say usii kala dambeeyeen akhiiran waxaa qabsaday nimankaasi quraysha la yidhaahdo oo waday ka yahay ninkaasi la yidhaahdo qusay ibnu kilaab hareeraheedana waxaa deganaa qabaa'il kale oo ay ka mid yihiin kanaana oo ay ka tirsantahay qurayshi waa laf ka mid ah qabiilkaasi kanaana la yidhaahdo qurayshi markaasi waxay noqotay dad isku dayay in ay tijaaro adeegsadaan baac mushtar ayuu ahaa awoodooda ugu weyni magaalada maka la yidhahdana si fiican ayay u degeen qabaa'ilkii hareeraha ka deganaana waxay la galeen heshiisyo nabadgelyeed dabeetana tijaaro ayay samaysteen marna u baxda shaam iyo ciraaq marna xaggan yaman u baxda waxay u fakereen tijaaradoodaasi say u suurto gooli lahayd dabeetana waxay u sameeyeen wax iilaaf la yidhaahdo oo ah waddooyinka ay tijaaradooda sii marto inay la yeeshaan qabaa'ilka dega heshiisyo nabadgelyo la galaan isla markaasi inay wax cashuuroo kale ah oo ay iilaaf u bixiyeen inay ka siiyaan isla markaasina inay adeegsadaan xataa nimanka madaxda ah ee qabaa'ilkaasi u madaxda ah tijaaradooda inay saham ka siiyaan sheer inay kala qayb geli karaan inay siiyaan si tijaaradooday u socoto camalkaasi masalan heshiisyadaa la gelaya ee ku saabsanaa tijaarada qurayshe ay xoogga ku noqotay ninka isna sameeyey waa haashim ibnu cabdimunaaf oo isna ka mid ah awowyadii nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni qusay waa awowyadii hore ee nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ninka quraysh maka dejiyey tijaaradooda ninka isugu xidhayna waa haashim ibnu cabdimunaaf oo isna ka mid ah nebiga calayhi salaatu wasalaam awowyadii tijaarada oo yacni iqtisaadka maka markaynu soo duuduubno wuxuu u salaysnaa kow qaybi tijaaray ahayd sanaacada ama farsamada waxaa la yidhahdaa aad bay ugu yaray waxoogaa hubkay samaysan jireen iyo dharyaha iyo waxoogaa sariiraha iyo guryaha waxa caynkaasi ka mida in xoola raacataana way lahaan jireen iyo in ugaadhsada laakiin asaaska dhaqaaladee maka lagu deganaa waxay ahayd magaalo tijaare magaalo baac mushtar bay ahaan jirtay maadaama ay magaalo baac mushtar ahaan jirtay baac mushtarkana asal uu yahay nabadgelyo quraysh waxay ahaan jirtay meel degan meeshay degantae maka ahi dad badanna waxay kula jirtay mucaahadaad ama heshiisyo waxaanay ahayd un tijaarada waxa ugu badan ee ka shaqayso heshiisyada ay qabaa'ilka kale la gashayna waxay u fudaydisay in tijaaradooda ay tijaara duwaliya noqon karto oo ay duwalka kale iyo dhulka kale la baayac mushtarayn karaan weliba dagaaladii ka dhaxeeyey persia iyo romaniska ama labadii dawladood ee waaweynaa ee markaa jiray ina waxay carqalad geliyeen dariiqii iyaga u dhaxeeya tijaariga ahaa ee isku xidhaya yurub ama waqooyigaas oo dhan iyo asia dariiqa isku xidhaa inta badan sham iyo ciraaq iyo dhulkan baa la mari jiray dagaaladii labadaa dawladood u dhaxeeyey baa xidhay taasi waxay sababtay baa lasii yidhaahdaa in can ariiqi marka uu aada u xoog bato tijaaradu inay marto oo matalan indiya iyo dhulka alaabta laga keeni jiray waxay iman jirtay baa la ydhahaa badday soo mari jirto yaman bay iman jirtay dabeetana yaman bay maka ka tegi jirtay makay ka qaban jirtay markaasi sham iyo xagga roman isku ka taliya saasi daraaddeed waxay noqdeen dad isku xidha mujtamacaad badan oo tijaari ah ayay maka ahayd reer makana maadaama ay tijaaradaasi in badan ka shaqaynayeen waxay noqdeen dad maalqabeen badani uu ku jiro oo reer maka rag baa dee kibirku gaadsiiyey weelkooda uu dahab wax ku cabi jiray weelashay wax ku cabaan dahab ay ahaan cabdillahi ibnu jadaan nin la odhan jiray iyo koobku wax ku cabaa dahab buu ahaan jiray marka qurayshi waxay yeelatay tabaqaad kala sarreeya tabaqo tijaarada ra'sulmaalka weyn haysata oo heshiisyana kula jirta dawladaha ama qabaa'ilka iyo wadooyinka dadka dega oo weliba tijaaradoodu qaab shirikaad oo kale ay u dhisan tahay oo ah qaasilo aad u badan la israaciyo oo dadkao dhanna shares la siiyo laga qaybgeliyo inay tijaarada si ka wada qaybgeli karayaan oo dadka danyarka aan wax badan haysan ribo wax ku siisa nidaamka ribowiga ee bangiyadu isticmaala iyo tabaqaad aan waxba haysan oo aada u foqoro ah oo aada u waxtar aan waxba haysanin labada kooxoodba way deganaayeen
dekadaha isticmaali jireen inta badan meel shacbiya la yidhaahda ayay ahaan jireen oo ay dekadan jidday imkaa taqaanin ee macruufka ahi waxay bilaabantay baa la yidhaha khilaafadii cuthmaan radia allahu canhu ayay bilaabantay markaasi maki waxaan leenahay cumuuman waxay ahayd magaalo baayamushtar oo xaggan xabashida iyo afrikana waxaa ka iman jiray bukuurta iyo dhirtan la shita iyo baalgorayeedka iyo maxaa la yidhaha foolmaroodiga iyo hargaha iyo ninka madoowa la adoonsado xagga shaamna waxaa ka iman jiray baa la yidhaahdaa inta badan waxa la cuno daqiiqda iyo sareenka iyo saliidaha iyo khamriga iyo cinabka iyo waxaasina xagga shaam bay uga iman jireen xaggan indiya ama indiya dhankeedana iyaga waxa uga iman jireen inta badan looxa iyo filfisha iyo bahaaraadka yani waxyaabahan yararee raashinka lagu darsada tirada badan leh dharka iyo xariirta iyo waxaan la tolo weelasha waxaasina inta badan waxay ka iman jireen dhanka kan indiya tijaaradaas bay u dhexeeyeen siyaasadda quraysheedna cumuuman waxay ahayd siyaasad ku salaysan deganaanshiyo iyo in loo dhimriyo iyo heshiisyo in la galo oo may ahayn dad dagaal badan waayo taariikhda quraysh waxay yidhaahdaan qabla intaanu nebigu iman calayhi salaatu wasalaam ee aanay dagaalka u xidhxidhan horteed taarikh ahaan waxaa loo hayaaba 4 dagaal waxay galeen 4 dagaalna waa xuruub iltijaar afarta la odhan jiray 4 dagaalna inta badan waxaa la yidhaha munaawashaad yaryar baaba iska ahaayeen yani dagaallo xataa aada u waaweyn may ahayn ee dagaallo waxoogaa loolama yaryar oo aan saa usii badnayn buu ahaa saa daraaddeed waxaa la yidhahdaa qurayshi intan ka horraysay islaamka may ku badnayn dagaalku siyaasadooduna waxay ku salaysnayd in dadka heshiis iyo tijaarada in shirka laga siiyo iyo lacag iyo qaabkan fudaydka ah ayay ku salaysnayd weliba waxa kaloo siinayeyna mudnaan kale waxay deganayd markas diiniyo dadku diin ahaan buu uga dambeeyey markas diiniya ayay deganayd oo dee diintii nebi ibraahim laga dhaxlay wixii ka soo hadhay meesha uu sii yaalay inkastoo markii dambe waktigii ay khusaaciyiintu ka talinayeen meesha tan ay diinta qaldeen gaar ahaan ninkii la odhan jiray camar ibnu luxayi alkhusaaciy oo axaadiista saxiixiiba ay ku soo aroortay inuu nebigu lahaa kaa waxaan arkay isagoo naar ciidmihiisa ku daba wareegaya buu nebigu tilmaamayay yani ahlu naarku ka mid yahay ninka kani waa ninkii koowaad ee asnaamta keena maka sanamkii hubal la odhan jiray buu kasoo iibsaday shaam dabeetana tuurta kusoo qaatoo keenay kadibna asnaam badan baa la keenay ilaa iyo kacbada agagaarkeeda uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka dumiyey 360 sanam 360 sanam oo la caabudo sanamadaas iyo waxaasi way tiro bateen qaarkood dhagxan la qoray bay ahaayeen qaarkood xataa waxay ka ahayd un meel yaroo buuroo taagan oo dhagaxun ku urursan yihin masalan sanamadii asaaf iyo naa'ila iyo waa kuwii marwe iyo safwe iyo meelaha yaalay iska kur yar unoo kuusan oo dhagxan saarsaaran tahay ayay ahayd sanam caabudkan iyo waxa kanina dee sida bukhaariba sheegaya xadiidkii aburaja alcutaradi saxaabigii la odhan jiray uu tilmaamayey waa kii sheegaya yani dadku say sanam caabudkan iyo waxa kan xad bay ka gaadheen uu lahaa marka aanu weyno xataa dhagax intaanu ciid ku ururinaa baanu neef adhiya ku lisnaa buu yidhi markay isku dhegtaan caana idaadoo kale marka lagu liso uu isku dhego ciidda yari ay sii dhagaxoo kale u ekaato abaanu sanam ahaan u caabudi jirin yani xad markaa xataa dhagax la waayo in caana lagu lisi jiray ciidda inay isu yaro dhegto uun aad waxaa u batay asnaamtaasi iyo cibaadaadkaasi la halmaala sanamadaasi markaynu usoo noqono magaalada maka iyo dhismaheeda iyo qaabkay u salaysnayd waxaynu leenahay kacbada ay deganaayeen baa dad badani kaga dambeeyey oo qurayshi manzilo ay ku haysatay markaynu eegno maka iyo dadkii u kala dambeeyeyna jurhum ayaa taariikhda inta la hayo kuwii ugu horreeyay ahaayee nebi ismaaciilba uu ugu yimi agagaarkooda iyagoo degan dabeetana khusaaca dabeetana quraysh baa degtay quraysh weliba qusay ibnu kilaab ninka la yidhaahdo markaynu eegno taariikhda maanta la hayo kama badna maalan adabka jaahiliga carabeed iyo waxaa marka la eego waa ilaa 150 sannadood qabla alislaam taa macnaheedu waxa weeyaan 400 iyo waxoogaagii meelahaasi ayay u badan tahay taariikhdu wixii ka dambeeya si fiican loo hayo ee meesha tan taallay waxaana bilaabay uu ninkaasi qusay ibnu kilaab la odhan jiray markuu meesha tan degay qusay ibnu kilaab
markuu dhirtan googooyo quraysh meesha dejiyey oo inta maalqabeenkiina magaalada meesha gudaheeda ay sii deganayd dacalladeedana inta aan waxaysan baa inta badan deganayd wadaa'iftii diiniga ahaydna isaga ayaa reerkooda u qaybqaybiyey ama carruurtiisii qusay ibnu kilaab waxa ugu weyne uu meesha tan ka sameeyey waxaa ka mid ahaa daaru nadwa oo ah guri ay qurayshi ku shirto oo laysugu yimaado oo taladoodu ka go'do gurigaasi oo runtii ay yidhahdaan waa waxyaabihii saaciday inay maki ahaato meel nabadgelyo iska salaysan waayo mar haddii la hayo meel waayeelku intuu isugu yimaado lagu shiri karo arrinta lagu gorfayn karo qadiyad kastoo dhacda mar haddii ay soo gaadhi karto waayeelkoo loo soo gaadhsiin karo waa arrin inta badan nabad iyo xal ku dhammaan karta qusay ibnu kilaab markaa waxyaabaha caankii uu sameeyey waxaa ka mid ahaa daaru nadwa meesha la yidhaahdo oo uu ka sameeyey guri yar oo xagga albaabka kacbada u furan oo ay odayada quraysheed oo dhamma fadhiistaan oo lagu shiro waxaa ka mid ahaa inuu liwaaga quraysheed isagu markaasi gacanta ku dhigtay oo inaan dagaal geli karin qurayshe ilaa iyo liwaagan ay hayaan mooyaane waxaa ka mid ahaa yacni xijaabada oo ah furahan kacbada inay iyagu haystaan iyo sadanada iyo cidda u wadaadada ah iyo intan oo dhan inay iyagu gacanta ku hayaan waa xijaabadii oo ka mid ah rifaadada waxa la yidhahdo rifaadat lxujaaj oo ah xujaajtu markay yimaadaan waxa aan waxhaysan in diyaafo loo sameeyo meel ay wax ka cuni karaan dadkan soo xajaya waayo xajku waa cibaadaadkii uu ka tegay nebi ibraahim marka calayhi salaam ilaa nebi ibraahim saanu baa loo soo xajayay marka xataa intaan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iman waa la xajayay laakiin xajkii oo la qalday oo shirkiyaad iyo waxaan diinta ka mid ahayn lagu daray ayaa joogay marka xujaajta iyo dadkan isugu yimaada ayuu wuxuu u samayn jiray diyaafa meel xawd ay ka cabbaan oo biyo uu u macaaneeyo timir iyo zabiib uu ugu daro iyo cunno la siiyo wuxuu u sameeyey yani siqaayat lxaajka rifaadada xijaabada waxaasoo dhanna isaga gacanta ku hayay baa la yidhahdaa iyo caruurtiisii qaar ka mida buu gacanta usii geliyey masalan daaru nadwaha uu sameeyo kale baa la yidhaha albaab bay lahayd xagga masjidka kacbada usii jeeda waa meeshii umuurta dagaalka iyo nabadda iyo waxaasoo dhan lagu go-aamin jiray waa meesha ay ku samayn jireen cuquudoodii masalan wixii heshiise ama guur ha noqoto ama heshiisyada dhaqaale iyo waxaan la kala baac mushtarka socda ha ahaato waxaana fadhiyi jiray baa la yidhaha mala-ul qowm madaxya waaweynta reerka nin 40 ka yari ma fadhiisan jirin bay sheegaan culamada taariikh markay ka warwaramayaan daaru mashhuura bay ahayd runtii qusay ibnu kilaab ninkaa la yidhaahda ee quraysh ka tirsanaa magac weyn buu ku yeeshay quraysh dhexdoodii caadaadkii iyo dhaqamadii iyo wixii uu gooyay qurayshna diin bay ka dhigteenba in sidooda loo raaco aan waxba laga qasin ama ha noqoto siduu ugu qaybqaybiyey arrimahaasi maamulka ah ama ha noqoto wixii caadiya dhaqan uuga tegey tolkii waxay ka dhigteen uun wax diin oo kale ah oo sideeda loo ilaaliyo gaar ahaan nimanka odayada ee qurayshi ninkaa wixii uu go-aamiyey iyo go-aamadii waagaa la qaatay sideeda ayaa loo qaatay isaga dabadiina waxaa soo baxay runtii rag ka mid ah abnaadiisii ama dadkiisii oo ka mid yahay haashim ibn cabdimunaaf oo uu ka mid yahay almualib oo uu ka mid yahay cabdilmualib oo uu ka mid yahay abaa aalib oo dhammaantood aan odhan karno un waxay sii kala dhexleen inay sii haystaan wixii uu aabbahood ka tegey ee ku saabsiisnaa qadiyadaasi maamulka maalan haashim ibn cabdimunaaf ibnu qusay yani qusay waa awowgii waa ninkii bilaabay heshiisyadana in lacag loo qoro dadkan wadooyinka ee tijaaradooda ay marteen ee ilaafka waxaan loo bixiyey ee ka dhigay tijaaradii quraysheed inay noqon karto mid duwaliya oo ka baxsan meeshan yaroo dhan waana ninkii u qoday baa la yidhaha ceelal badan buu u sameeyey reer mako ay ka cabbaan walaalkii oo almualib ahaa ayaa ka dhaxlay markuu isagu dhintay qabsaday mualib wuxuu ku caan ahaa baa la yidhahdaa nin dulmiga neceb buu ahaa nin akhlaaqda fiican dadka fara buu ahaa nin cibaado badan buu ahaa quraysh markaa oday ay ka dambeeyaan buu ahaa waxaa ka mid ahaa haashim inankuu dhalay ee mualibna adeerka u ahaa ee loo bixiyey cabdilmualib magaciisa caadigaa shayba baa la odhan jiray oo waxaa la yidhaahdaa haashim ayaa qabtay baa la yidhaahdaa haashim markuu guursaday ee wiil dhalay ayuu ka tegey wiilkii uu dhalay wuxuu kaga tegay yani isagoo yar ayuu haashim dhintay dabeetana odaygan mualibabaa waa dambe loo sheegay
isagoo wiilkii 6 jir meelaha maraya ama weynaaday wuu doono wuu soo qaaday markii uu keenayna carabtii ama quraysh waxay aragtay wiilkan yar uu jito dabeetana wiilkii waxay isaga bixiyeen war waa adoon yar oo isagu keensaday bay Abdul Muttalib buu bixiyay yani magaciisa asalkii Shayba buu ahaa Muttalibna waa adeerkii oo Hashim la walaala oo soo koriyay markaas iyo keenay dabeetana Abdul Muttalib uu iskaga caanbaxay Abdul Muttalibna waxa runtii nin aad ugu caanbaxay deeq oo Shaybat al-Hamdi bay markay doonaan oran jireen waanu kaloo ku caanbaxay waa ninkii uu qoday mar labaad ceelkan Zamzamka ah يعني زمزم كو نبي الله إسماعيل هي كتجي لكن waxay yidhaahdaan khuzaaca barigii meesha la isku dildilay ee ay arkeen inay ka baxayaan bay aaseen ama dabooleen ama tirtireen marka meesha waa la waayey waxaa la sheegaa inuu riyooday cabdilmuطalib ilaa 4 jeer uu riyooday markii ugu dambaysayna in loo tilmaamay meeshay tahay riyadaasi sanad xasana bay runtii ku soo aroortay ilaa cali ibn abi aalib ka soo aroortay dabeetana ceelkan buu qoday ceelkii zamzamka markuu qoday soo saarayna waa muran dambe ka yimi oo quraysh ba ku qabsatay quraysh markay ku qabsatayna qaab ay u garnaqsadeen ala kulli xaal insha Allah waa laga yaabaa inay mar dambe inagu soo noqoto waxaan uga jeednay intan aynu ka waramayno oo dhan umuuman inaynu ka warano qaabkay u dhisnay magaalada Makka iyo sidii loo joogay laakiin taariikh ahaan marka laga waramayo taariikhda had iyo goor waxay ka bilaabaan nabiga calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisii maadaama taariikhdeenu dee nabiga uunay ku salaysantay calayhi salaatu wasalaam inta ka horraysa waxaad moodaa inaan wax badan laga sheegin ama wax badan dadku ka odhanin waxa ugu badan ee laga warramaa inay tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo dhalashadiisii mararka ugu badan waxa kale laga warramaa waa zamzamka iyo sidii uu qodmay iyo in la tilmaamo maasirtan reerkii nabigu ka dhashay inay reer meesha magac la ku ahaayeen haduu yahay odaygii Qusay ee magaalada deegaankeedii waxa kan waxaynu naqaanaa nabiga calayhi salaatu wasalaam marka laga warramayo nasabkiisu 3 qaybood buu u qaybsamaa qayb culimada taariikh ama culimada siira dhamaanteed way isku waafaqsan yihiin qaybna aad bay isugu khilaafsan yihiin qaybna iyada waxa laga sheegaaba waa iska war ku tirkuteen 3 qaybood aynu tilmaamayna waxa weeyaan qaybta ilaa Adnaan inta la gaarayo oo 22 awow ka tirsan culimada taariikhda soo warisa dhamaantood way isku wada waafaqsan yihiin yani nabiga in la oran jiray Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر وانك قريش الله يدعوه فهر مركاسي طبعا بوكا صوت الصداع حاجة دنبع عدنان فهرنا طبعا خلايسي كالة الصداع كوبي اللواتن كاس يقوى الاسكود وافق سنيهي وحانقو بدنتين ثابتي مركا عدنان لقبل ابو الى اي نبي اسماعيل لقينيو أدبا خلافة نوجه يعني تاريخ كلا بدن أو آدو كلا جديسن أو أنسكو حدنين أيام كاسلة تريا لقبل أبو ويان عدنان إلا أنت اللي جارسين يا إسماعيل أما إبراهيم حاجة كسيدا بيسانا دمك كسي مرم بدن إن النبي إبراهيم وابتر إلا آدم هتجارسي سانا كتب التاريخ أما كتب السيرة انت ضوء القرآن مثلا waxaan filayaa inay Adnaan مثلا iyo Ismaaciil meelahaas ilaa 40 baan u maleeynaa inay u dhaxaysiiyaan laakiin inta dambe oo dhami waa iska murankeedu iska tiro badan yahay si qurana uma wada tilmaamna marka aynu hore uga socono inta tan waxaynu u gudbi karnaa waxyaabo ugu caansan waxa kamida bi'ru zamzamka iyo qodistiisa oo ay niri waxa ugu asaxsan riwaayada ibn Isxaaq laga warinayo ee Ali ibn Abi Talib gaaraysa sanadkeeduna xasan yahay ee sheegaysa inuu ku riyooday Abdul Muttalib oo marafraadkiin loo tilmaamay ama aasaarta sheegaysa wixii uu ka soo saaray kullaha riwaayad daciifa bay yiraahdaan yani
waxyaabo badan bay sheegaan oo uu meesha ka soo saaray oo ceelka markuu qodayo calaamado loo sheegay waxyaabo ka soo saaray kuwa aafaarta ku soo aroortoo dhami waa daciif wax badanna runtii ma sheegayaan afarka labaad ee inta badan la sheegaa waa qisadii waqtigii uu nabigu dhashay calayhi salaatu wasalaam ee caamul fiilka qisatul fiil iyada waxaynu naqaanaa qur-aanka sugay alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi alfiil qur-aanka ayaa sugay culamada taariikhda qortaana waxay ku tilmaamaan inay ahayd 570 ama 571kii miilaadiyada tan imka 2001 maraysa marka 570 qaarkoodna waxay ku tilmaamaan 571kii meelahaasina qisadaas duuduubkeeda oo dhan markaynu isu soo geynana waxa ay sheegaysaa yani bacdi saxaaba ayaa laga warwariyaa laakiin saxaabada laga wariyay waa saxaabo yar yar oo iyaga iyo qisada tan ilaa 50 sanadood meelahaasi ay u dhaxaysay laakiin waxaad garan kartaa un aafaar ka hadhay oo qisadan la wada yaqaan inay jirto مثلا Aisha radiyallahu anha waxay sheegaysaa inay soo gaadhay yani waa sanad saxiix sanad xasan oo ku soo aroortay Aisha kale مثلا waxay sheegaysaa inay soo gaadhay oo ay aragtay iyadu maroodigii abrahaninkii waday iyo kii saayska wahaye meedmeedi jirayba labadaas oo indhoolayaal oo magaalada dawarsaday inay soo gaadhay يعني maroodiyada nimankii waday nima kamida weeyaan oo indhoolayaala oo dawarsada inay soo gaadhay مثلا saxaabi yar oo la oran jiray Qabat ibn Shaym baa filaya isna wuxuu sheegayaa inuu soo gaadhay inay hooyadii tustay isagoo yar oo caruura hooyadii inay tustay saaladii uu dhigeen maroodiyadii nimankaasi wateen oo midabkeedu xataa isbedelay laakiin isaguna وعامل فيلك وحوغا بو كهريه يعني ويل يرو وحوغا جرى سنوات ايوها اسنا وترمذي با ورينيا على كل حال قرائن بدن با tilmaamaysa اما قصده siday u dhacday خلاصه القول waxa la sheegay in abraha la oran jiray oo xabashi ahaa markay dul badan sameeyeen oo isku dayeen carabtan ku sii socota kacbadan oo xajisay in laga duwo ay u taag waayeen ayuu meel sameeyay meeshii waxay soo wariyaan riwaayadkaas inkastoo aanay xooganayn in nin carbeed kiniisadii ku sameeyay kiniisadii wuxuu kaga sameeyay ala kulli xaal wax kastaba ha ahaatee ninkan abraha la yiraahdaa wuxuu ku talagalay inuu duulo oo uu soo dumiyo abraha markaa waa nin xabashiyeed oo yaman xukuma xabashidu laba jeer ayay yaman kolba gumaysatay marka waa marka mida kooxda tan abraha uu joogay waa markii dambe ayaan rajaynaya abraha wixii ka sii dambeeyay waxa qabsaday yaman Persia ka nabigu kaleey salaatu wasalaam markuu soo baxay nabinimada lagu soo dejiyay Persian baa haystay yaman Iran baa haystay waqtiga ay xabashidu haystay meeshatan ayuu ciidan diray ciidankaas oo ugu talagalay inuu kacbada soo dumiyo laakiin ciidankaasi markii uu soo gaadhay maka duleedkeeda waa dulxas meesha la yiraahdo markuu soo gaadhay baa la yiraahdaa bay fadhiisteen maroodiyadii marka xagga kacbada loo dareeriyana way fadhiistaan hadii jiha kale loo sii daayana uu iska dareeraan meeshii iyagoo joogana ilaahay baa ku soo itixaamay tayra nababil tarmihim bihijaratin min sijil shimbirahaasi duulaya ee dhagxanta la dhacaya ayaa yimi shimbirahaasi dhagxantii bay dadkii la dhaceen dadkii badmeeshii bay ku dhinteen qaar waa xanuunsadeen abraha kan waxa la yiraahdaa sancu isagu ku dhintay bay dhaadaan isagoo googo ayagu yimo xanuun kala ku dhacay oo dadkana meeshaas ku dhintay qisadaasi marka la soo duudubo waxa ay sheegaysaa in la jabiyay un abraha iyo kooxdiisii sida quraanka naskiisa ku cad nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa lagu tilmaamaa inuu dhashay sanadkaas caamul fiil waxa qisooyinka meesha la tilmaamo kamida nabiga calayhi salaatu wasalaam aabihi عبد الله عبد المطلب بي وحي شيغان إنه ندري نذر كان ابن عباس باسو أروري سنة صحيحة قصوص عري إنه ندري عبد المطلب وقت جو ندري رواية ضعيفة قصوص أروري لكن مركز الله يسقط على كل حال مرسل صحيح سنة كيسو حسن هنا وقصوص أروري وحي يدنا الضوضوب كذا الشيء يساوون عبد المطلب markuu zamzamka helay qurayshtii kala ku qabsatay waxa lagu heshiiyay in la kala garbaxo riwaayadkaasi qaar kamid waxay sheegayaan inay qabteen
shaam iyo yamani xaggaa in la isla qabtay kaahina joogtay habar falalawadii inay soo kala saarto dabeetana dhexda markii la soo socday in biyihii madheen riwaayadka qaarkood waxay leeyihin biyihii oo dhan baa madhay qaarna waxay leeyihin isagumaa biyihii ka madheen iyo intii la socday ee intii haysatay biyihii kamay madhan markii biyo la waayey kadibna ama fardihii uu fuushanaa mid ka mid ah adinkiisu meeshuu ku dhuftay baa ilaahay biyo ka siiyey riwaaya kaloo daciifana waxaan rajaynaya inaad sheegayso roob baa tahay mid kastaba ha noqotee biyaa la helay dabeetana dadkii haraadka u baktii gaadhay mar labaad unbaa ilaahay cabdulmutalib biyo ku siiyey dabeetana waxay dhahaan war ninkan mar dambe alla biyo inagu siiyey kuwii hore waxba yana ku qabsanine ha loo daayey zamzamkii saasaa loogu daayay baa layidhi waxay yidhaahdaan carruur badan markaa muu lahayn bay leeyihin lagu haystay zamzamkee wuxuu nadiray hadduu xoogaysto ilaahay 10 wiil siiyo rag iska dhicin karo inuu 10kaa mid ka mida ilaahay u sadaqadeeyaba 10kaa mid ka mida inuu ilaahay u sadaqadeeyo waxa la yidhahdaa 10kii wiil baa ilaahay siiyey dabeetana nadarkii wuu qori tuuray baa la yidhaahdaa qori tuurkii wuxuu ku dhacay cabdillaahi dabeetana cabdillaahi inuu gowraco way ku adkaatay dadka bar waxay qisaska qaarkood sheegaan in falalawadu uu geeyay oo iyadu ay tidhi isagiyo 10 halaad bay diyadu ahaan jirtay isagiyo 10 halaad u qori tuuro cabdillaahi ku dhacday tidhi 10 kale ay cabdillaahi ku dhacdo 10 kale oo boqol ay ku arsay laakiin riwaayada fiican iyadu waxay sheegaysaa inuu boqol iyo cabdillaahi loo qali tuuray yani loo qori tuuray quraac loo sameeyay cabdillaahi iyo boqolka markii loo qori tuurayna boqolkii halaad ayay quraacdii ku dhacday markaa nadarkii wuxuu ku dhacay boqolkaa halaad la gowraco cabdillaahina la sii daayay cabdillaahi markaa wuxuu u guuriyey inan aamina bintu wahab lo odhan jiray tafaasiisha sida loogu guuriyey iyo arrimaha ku saabsan kumay soo aroorin iyaguna dariiqo saxiixa asxaabu taariikh yani riwaayad aad u tiro badan bay iska soo arooriyaan cumuuman waxaynu leenahay uun wiilkaasi gabadha wuu guursaday dabeetana wuxuu qabtay madiina riwaaya baan rajaynaya inay xasan tahay baa sheegaysaa inuu u diray timir inuu uga soo iibiyo oo timir ka doono cabdilmutalib uu uga diray madiina markii uu madiina yimina wuu ku xanuunsaday cabdillaahi markuu xanuunsadayna uu geeriyooday wuxuu geeriyooday riwaayadka saxiixisay sheegayaan iyadoo uurka uu ku jiro nabigu calayhi salaatu wasalaam culamada taariikh qaar baa qisas badan oo kale soo arooriya waqti inuu nabiguba dhashay intan saro inuu jiray waxaa laakiin inta badan waa iska wada daciif waxaasi insha allah waxa saxiixa inuu uurka isagoo ku jira uu dhintay nabiga aabihii calayhi salaatu wasalaam culamada taariikhna waxay wariyaanba islaantii markaa gabayo borordiiqo ay tirisay oo ay odaygeeda dee dhintay u tirinaysay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhashay markaasi maka dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam war badanoo usbuuro ah baa laga sheegaa warar badanoo aan waxba ka jirin laakiin waxaynu isku dayaynaa waxaas aan waxba ka jirin tirada badan loo dhan inaynu iska dhaafno nabigu calayhi salaatu wasalaam magaalada maka ayuu ku dhashay sanadkaasi la yidhaahdo caamulfiilka caamulfiilkaasi oo u ahaa baynu odhan karnaa irhaas yani nabiga calayhi salaatu wasalaam alla wuu sii muujiyey oo yani basharkao dham ee qadiyad ay sii fahmeen oo warkeedu dunidoo dhan uu gaadhay oo aada uu gaadhay qaabkii uu nebigu u dhashay waxa ku soo arooro oo dhami inta badan waa wada daciif iyo mawduuc iyo kadaab wuxuu ku jira waxaan khayr badan lahayn allahuma ilaa xadiid xasanaa jira xasan ligayrihi weliba isaguna ah oo sheegaya in ay ku riyootay nebiga calayhi salaatu wasalaam hooyadii nuur ka soo baxay oo qusuuru shaam oo dhan ifiyey kaasi waa in sha allah xasan ligayri ama wax allaaliya waxa kale ay ku soo arooriyaan ama ha noqoto qaabkii uurka nebiga ay uu siday oo wuu fududaayo kanbuu ahaa iyo waxaan may dareemi jirin iyo waxaasoo dhami waa iska uun waxaan sanad badan ama xoog badan loo haynin waxa la mida iyaguna kuwa sheegaya markuu soo dhacay nebigu calayhi salaatu qaar baale wuu soo booday unoo gacmuhunbuu dhulka ku tahay laakiin waxaasoo dhami waxba insha allah waxba nebiga ku kordhin maayaan yani waxay dadku jecel yihiin in la buunbuuniyo laakiin buunbuunis risaalada u ah iyo wixii alla uu ku ammaanay siduu u dhashay wax badan waxba ku kordhin maayaan
riwaaya daciifa sheegay isagoo gudan baabu dhashay iyada lafteedu waa daciif qaar baa sheegay malakul jibriil baa guday iyada lafteedu waa daciif qaar baa sheegay inuu cabdilmuطalib guday iyana waa daciif laakiin waa iska macquul in la yidhaahdo cabdilmuطalib maadaama uu isagu hayay oo aanu aabihii uu dhintay oo awowgii ahaa oo isagu soo korinayay inuu isagu gudo oo xanaaneeyo oo taasi waxa macquul oo sida caadiga ah waafaqsan ama waxa kale la sheegayo oo dhamin waa wada daciif waxba kama jiraan waxa kaloo la mida waxyaabaha axaadiista daciifka tirada badan leh ama mawduuca kadaabinta badani ku jiraan lagu soo arooriyo jin baa yeedhiyey oo wax sheegay ama sanamadii iyo macaabidii wataniyiinta oo dhan baa daadatay ama boqortooyadii kisre iiwaankeedii baa soo dhacay ama buxayradii yareey saawo la odhan jiray baa biyo laga waayey ama dajla yani wax badan bay sheegaan laakiin kullu haadihi wax ka soo qaad male saasi daraaddeed waxaasoo dhan waa iska dhaafaynaa waxaynu ku daynaynaa inuu nebigu dhashay calayhi salaatu wasalaam hooyo ilmo caadiya siday u umushayna in loo umulay in nebigu calayhi salaatu wasalaam taariikhdii uu dhashay waxa ay culammada taariikhda qora isku wada waafaqsan yihiin waktiga la yidhaahdo caamil fiil laakiin maalin muu ka dhashay waa qadiyad iska muran badan maalan saaxibu raxiiq almakhtuum wuxuu isagu leeyay mid waa laisku wada waafaqsan yahay axaadiis saxiixa ku soo arooray inuu nebigu isniin dhashay iyada taa muran kuma jiro inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin isniineed dhashay iyada wax murani kuma jiraan axaadiis saxiixina waa ku soo aroortay waana saas bay ku sugan tahay sanadkaasi caamul fiil inuu dhashayna waa inta badan culamada taarikhda isku wada waafaqsan yihin laakiin goormay ahayd waxa mashhuura oo aada u caan baxday oo dadku inta badan uu haystaa inay tahay 12kii rabiicul awal waa sida ugu mashhuursan laakiin wax ku asaxay ma jiraan ibnu isxaaq ayaa soo arooriyey 12kii rabiicul awal inay tahay ibnu isxaaqna sanad sugan kumuu soo aroorin dhalashadaasi nebigu calayhi salaatu wasalaam inay 12keeda ahayd alwaaqidi oo aada uga sii daciifsan isagu wuxuu soo arooriyaa inay ahayd 10kii rabiicul awal abu macshar asindi ninka la yidhaahdo culamaa ilxadiid agtooda isagana daciifka ah inkastoo ay yidhaahdaan basiir buu fi lmagaazi ku ahaa sidaa waaqadiyo kale isna wuxuu soo arooriyey 2dii rabiicul awal saaxibu raxiiq almakhtuum wuxuu isagu qaatay maxmuud baasha alfalaki wadaadka la yidhaahdo taxqiiqiisa sida uu ku sheegay oo ah waxay baadheen isniintu meesha ay kaga dhacayso rabiicul awalkii sanadka ku beegnayd dabeetana waxay yidhahdeen isniintaasi waxay ku beegnayd 9kii rabiicul awal qoladaasina iyagu waxay ku tagtay iyagu aan taariikh ahaan daliil soo aroorinaynin soo waxay aroorinayaan ay tahay uun min xayta taariikh isniintaasi goorbay ku beegmaysay ayay eegeen maalmahaasi dabeetana waxay qaateen inay ku beegmaysay 9kii rabiicul awal dhankan kale marka la sheega bay yidhaahdeen waxay ku beegmaysaa 20kii ama 22kii ibriil 571 sida uu qirayo weeyaan moxamed sulaymaan almansuufuriy isku soo duuduub waxaa loo badan yahay inuu rabiicul awal qaybteedaa hore wakti ka mida dhashay nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin bidabdi midi ma jirto walidalik raggan mawliidka wadwada iyo waxa kani meelaa laba hubin bay u mawliidsanayaan yani in mawliidsato waxaa ka horaysa inaad maalintii inay tahay in la garto laakiin waxay ahayd haddii sunno la rabo in isniintaa sunno ahee la soomo kaasaa ku filan yani nebigu calayhi salaatu wasalaam marka la eegayo matalan qadiyadda mawlidka ku saabsan dhalashada ku saabsan muu tacdiiminin tii ku saabsanayd taariikhda maalintay ka ahayd ee waxaa la weyneeyey maalinta toddobaadka maalintay ka ahayd idan haddaad rabto nebiga calayhi salaatu wasalaam weynayntiisii wuxuu nebigu weyneeyey maalintuu dhashay oo isniina mawlidkeenu inta badan isniinba kuma beegmo mar jimcaynu mawlidnaa mar khamiis baynu mawlidnaa mar laakiin asalku waxa weeyaan in la mawlido unbay ahayd maalin isniineed isniintuna waa inaad soonto qaabka loo mawlidaana waa kaadi qaabka uu nebigu jideeyeyna waxa weeyaan in maalinta isniinta ee wiig walba ku jirta inay sunno tahay in la soomo wahada yakfiina ama wax laaliya waxaan kale soo aroora isagu wax badan oo sanad ah ma laha waxaa timi nebiga calayhi salaatu wasalaam markaa uu dhashay ciddii naas nuujisay
hooyadii mooyaane yaa kale naas nuujiyey xadiidka saxiixahi wuxuu ku soo arooray marka hore inay naas nuujisay Tuwayba gabadhii la odhan jiray oo ahayd gabadh addoona oo uu leeyahay adeerkii abilahab ninka la odhan jiray ee nabiga calayhi salaatu wasalaam kuwii colka ahaa markii uu nebinimada nabiga la siiyey markanuu nebigu yaraaya dhashay un dee inaan adeerkii dhalay unbuu arkayo waa buunbuuninayay markaas gabadh addoona uu lahaa oo ilmo dhashay oo naas nuujinaysa ilmaheedii buu u keenay uu yidhi naas nuuji waana gabadhaasi tii naas nuujisay xamsana walidaalika baa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo adeerkii xamse naas nuujinta walaalay ku ahaayeen xamse iyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam naas nuujinta walaalay ku ahaayeen oo labadaba waxa wada naas nuujisay Suwayba islaantaa la odhan jiray waxaa timi xaliima sacdiya qisada dheer ee ay soo arooriyaan asxaabu siira sanadkeeda muran badan baa ku jira culamo badanina way diidaa sugnaanteeda laakiin waxaa sugan kollayba in nebiga qabiilkaa reer bani saacad la yidhaahdo iyo islaanta xaliima sacdiya la yidhaahda inay naas nuujisay iyadoo ay sugantay tan aynu leenahay ibnu isxaaq aynu leenahay qisada dheere la tilmaamo waa qisada tan iyadu ee sanadkeeda muranku ku jira waa qisada sheegaysay in waqti abaareed ay ahayd oo iyadoo abaar tiro badan ay iska jirto ay gabadhani dumar kale soo raacday dameer yaroo ay lahayd ay soo fuushay dameerkeeda tamar darri daraaddeed kolba loo joogsanayay kadib ay maka yimaadeen ay isku dayeen inay ilmo ay naas nuujiyaan inay helaan way carabta caadadeeda waxa ahayd maadaama maka ay magaalo ahayd ahlu xadaro reer magaala waxay odhan jireen carruurtu si ay caafimaad fiican u heshay magaalada laga saaro baadiyaha ku soo koraan caanahana baadiyaha ku soo cabaan waxay u arki jireenna carruurtu markay baadiyaha ku soo kobocdo inay adadkaato ay fiicnaato oo kuwa magaalada inay ka wanaagsan tahay sidaas daraaddeed carruurta inta badan baadiyaha loo diri jiray islaamaha baadiyaha ee naaskoodu irmaan yahayna naaskooday ku xoogsan jireen oo intay magaalooyinka yimaadaan bay kuwa tujaartu dhashay iyo carruurahaasi meelaha ayay odhan jireen keen ilmaha kuusoo naas nuujisay oo kuusoo koriye dabeetana waa lagu maal siin jiray xoolaa lagu siin jiray qisada ibnu isxaaq siduu soo arooriyey wuxuu leeyahay markii ay magaalada yimaadeen ee dumarkii carruur soo wada helheleen moxamed waa la wada dhaafaya baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam waayo inan yaroo aan aabba lahayn awowbaa waxoogaa ku siin doona waa iska nin aabbihiin nooliyey baa la daydayanayay saasi daraaddeed waxay leeyihiin waa la iska wada dhaafdhaafay magaaladiinaan soo marmaray bay leeda wax la dhaafdhaafo aan kan dhaafnaba markii aan wax kala soo waayey ee aan sidhi bay tihi dee faramadhnaan ha la noqonine haatan wuxuu kusii faralaabo markaasaan iska soo qaatay bay tihi agoonkan yaree awowgii leeyahay ha la soo naas nuujiyo saasaan kusoo qaatay bay leedahay sidii baa kusoo baxday laakiin waxay sheeganaysaa markaa iyadu wax badan inay ka aragtay naaskii bay nuujisay oo dabeetana naaskii iyadoo aan waxbaba cunin unbuu iska dararaayo isaga iyo kii yaraayo kale la jaqayayba uu ka tiro batay oo xoolahoodiibaa ilaahay u irmaaneeyo caanihii iyadoo abaara oo xataa reeruhu yidhaahdaan dadka kale war maxaa halka reerkani xoolaa daajistay idina u soo daajin weydeen waa lala soo daajiyaa un dadka kale oo waxba kuwooduma soo faa'iidaan ee uun islaantan xoolaheedunbaa darara barakaadkaa tirada badan leh adigu nusuusta sheegtaa waa ma xoog badnaa sanad ahaan ma xoog badnaa culamaduna wax badan bay ka sheegaan laakiin in ay xaliimi naas nuujisay iyadu way sugantay xaliima sacdiya islaanta la yidhaha inay naas nuujisay riwaayaadka sheegaya ee axaadiistu waa sugan yihin insha allahu tacaala intii ay islaantan uu la joogayna nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa dhacday mucjisadii laabtiisa dilaacinta ah nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiista saxiixa iyaduna waxay sugaysaa 2 jeer in jibriil uu qalay mar waa markii israa walmicraajka marna waa markan uu yaraa markan uu yar yahay ee uu qolada tan la joogay xaliima sacdiya gurigeeda uu joogay waxa ay nusuustu sugaysaa in nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ciyaal kale la cayaaraya sida xadiiskii saxiixu muslimkaba ku yaalay inuu jibriil u yimi isagoo ciyaal kale la cayaaraya dabeetana jibriil inuu legday inuu dabeetana laabtiisa dilaaciyey in qalbigiisa wadnihiisa lasoo saaray wadnihiisa dabeetana calaqa xinjir yar inuu ka soo gooyey xinjirtaasi inuu yidhi waa xaddu shaydaani minka waa qaybta shaydaanu nafta ku leeyahay yacni qof kastoo bini aadama malaguna waa la xidhiidhaa shayaaiintuna way la xidhiidhaa
lama khayrka lagala xidhiidha iyo mid sharka lagala xidhiidha jira ka sharka lagala xidhiidha markaa nabiga isaga laga saaray calayhi salaatu wasalaam jibriil markaa wuu qalay wuxuu ka soo saaray wadnihiina calaqada yar xinjirtaa yar buu ka tuuray dabeetana wuxuu ku sheegay inay tahay xaddu shaytaani mink wuu maydhay tusti dahaba oo maa u zamzam ay ku jiraan ayuu ku maydhay dabeetana uma la'amah dib buu isugu geeyey meeshiisii buu ku celiyey seerjarigaasi ama qalliinkaasi waxaa sameeyey malakul jibriil axaadiis saxiixaana ku sugan inuu jibriil u sameeyey qalitaankaasi carruurtii yaryaraydna waa carartay markaasi oo islaantiiba u tageena waxay yidhaahdeen wiilkii yaraa la dil oo dee waxay arkeen halkaa isagoo lagu legdayey waa markii dambe islaantii soo carartayna waxay u timi nebiga calayhi salaatu wasalaam oo midabkiisa isyaro bedelay ila waa nin qalliin lagu sameeyey dabeetana anas ibnu malik oo xadiidka warinaya wuxuu leeyahay tolmadii raadkeeda waan ku arki jiray buu yidhi nebiga calayhi salatu wasalaam anas waa ninkii wiilkii yaraa ee u shaqayn jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu nebigu u hijrooday madiina 10 sannadood oo madiina joogu nebiga khaadimu ahaa anas ibnu malik saxaabiga la yidhahda markaa wuxuu leeyahay nebiga waan ku arki jiray buu leeyahay halkii uu ka tolay malakul jibriil khaydka waan arki jiray buu yidhi meeshaas xaliima saacdiya markii ay aragtay in wiilkii dee arrimahan ay ku soo kordheen bay u cabsatay dabeetana way soo celisay mas'aladaa sheegaysa inay u cabsatay musnadu imaamu axmed bay ku soo aroortay laakiin sanadka ayaa laftiisa wax laga yaro tilmaamaa nin baa la yidhaha muddo la soo cancaneeyey baa ku jira in sha allah sanadku waa xasan haddii ninkaa cancanadiisa oo tasriixa la helo calaa kulli xaal islaantaasi waxay ka cabsatay maadaama ay aragtay wiilkii wixii ku dhacay oo dhan way cabsatay waxay istiri ilmahan yuu wax kugu noqonin haddaba reerkoodii isaga celi dib bay u soo celisay waxay keentay markaasi magaaladii maka ahayd ayay ku soo celisay waxaanay gacanta ka gelisay markaa reerkoodii hooyadii baa gacanta laga geliyey hooyadiina markii ay muddo yar haysayba way geeriyootay waxay qabatay baa la yidhaahdaa makay u soo kaca madiinay soo qabatay iyadoo rabtay abtiyaasheeda ama dee wiilka abtiyaashiina inay soo tusto isla markaasi inay soo eegto xabaashii odaygeeda dabeetana markii ay ka soo noqoto ay dhexda soo socoto ayay dhexda ku go'day siday culamada taariikh sheegaan alabwa meel la yidhaahdo maka iyo madiine dhexdeeda ah ayay nebiga calayhi salaatu wasalaam hooyadiina ku dhimatay halkaas waxaa ka soo qaaday gabadhii khaadimadda oo ahayd waayo nebiga markii aabihii dhintay wuxuu uga tegayba baa la yidhaahdaa 5 neef oo geelan filaya iyo in yaroo adhiya iyo islaan madow oo ummu ayman la odhan jiray oo nebiga calayhi salaatu wasalaam tii soo xaadinada u ahayd ee soo korisay marka ummu ayman iyo cabdilmuطalib oo odaygii hayayabaa iska hayay saas baa cabdilmuطalib uu ku hayay ilaa iyo isaguna intii uu ka geeriyoonayay waxaa la yidhaahdaa 8 jir meelaha markuu ahaa iyadana sanad saxiixa kuma soo arorin oo culamada taariikhsay sheegta 8 jir meelaha markuu ahaa buu geeriyooday cabdilmuطalibna markaas baa lagu wareejiyey adeerkii abi aalib nin xoola badanna ma ahayn laakiin nin carruur badanna uu ahaa mana xoola badnayn haddana nebiga calayhi salaatu wasalaam muddo aada u badan ayuu maciisa ahaa ilaa iyo intuu dhowr iyo 40 jir gaadhayay nebiga calayhi salaatu wasalaam si weyn buu maciisa u ahaa in badanna wuu la soo wax ka soo rabay inkastoo aan ilaahay ku anfacin diintiisii oo aanu rumaynay abi aalib isagoo 40 sano nebiga u soo gargaarayay in ku dhodhow haddana gaalnimunbuu ku dhintay walidaalika buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu markii u dambaysay uu dhimanayay waa ku lahaa kelimo aan ilaahay aakhiro wax kugu weydiiyuun dheh laa ilaaha illa allah ku dheh markuu is idhaahdo laa ilaaha illa allah dhana habaarqabi abijahl oo meesha fadhiya ay yidhahdaan waad ceeboobaysa ma maanta ad inankan yar raacday adigoo quraysh odaygii ay daba fadhiday ee saasan oo halkaasuu u saaray kadibna gaalnimadii buu iskaga dhintay waana kuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam cid gaala ah oo nebigu uu shafeeci doono isagaa jira laakiin shafeecadiisu ma noqonayso mid naar lagaga saaree waxaa naarta kulule weyn baa laga geynayaa iyo waxaa loo geynayaa naar yar oo aan 2 kabood oo naara loo gelinayaa
laakiin waa laba marka loo geliya buu nebigu yidhi madaxiisa yacni daxdax min annaar ilaa qoobka naar joogta un adigu ama kaba noqoto ama wax laga noqotee ayaa la gelinayaa laakiin taasaa madaxiisu ka fakfaklaynaysa xagga sare waa cadaabu cadaabkaasoo abi aalib gelaya noocaasiya idan ninkii gaalnimo ku dhintaa aabbahay baa sheekh ahaan jiray iyo adeeraday baa awliye ahaa waxba ku heli maysid haddaanaad adigu mid khayr qaba aan noqonin walidalik baa qur-aanku wuxuu kaloo inoo tilmaamayaaba dee nebi wiilkiisu ahlu naarka ka mid yihi nebi nuuxse qur-aanku inooma sheegayo wiilkiisii u taag waayey oo lahaa warkaalay anigay soo raaco doonta soo raaco lahaa buurtan ka fuulaya ayaa iska tag qur-aanku wuxuu kaloo inoo sheegayaa nebiyo haweenkooda ay ahlu naar noqonayaan xaasaskoodu markay raaci waayeen oo waa ka imra'atu nuux وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما شيئا وحكى عكسي القرآن كوينو شيغيا هوين إلهي الرميي الرقود قالاها يقول جنة الجلية وامرأة فرعون إلهي آيات كاسكا والرمية إذن أبي طالب بقى مدسو هي أبي طالبنا قصص بدن baa laga sheegay intuu nabiga hayay alayhi salaatu wasalaam laakiin maadaama aan haynin riwaayad saxiixa insha Allah iyana iskaga boodayna waxa inta la raaciyaa waa tagistii uu nabigu isagoo dhowr iyo 10 jir ah u tagay buhayra oo raahib iyo wixii la mid ah insha Allah aynu ku jirnay siradii nabiga alayhi salaatu wasalaam qabla nubuwah waxaynu soo gaadhnay isagoo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu geeriyooday awowgii cabdilmuطalib oo markaasi uu kafaalo qaaday adeerkii abi aalib culamaa'i taariikh waxay wariyaan abi aalib inuu aada u jeclaa xataa socdaalladiisa iyo majaalistiisa iyo meelaha u fadhiisanaya inuu kaxaysan jiray waxaa la sheegaa inuu safar la galay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo yar oo 12 jir meelahaasi oo kala safarkaasi oo abi aalib shaam uu ku socday oo tijaaro ah laakiin wiil yar oo si ka haystay buu markaasi ahaa oo 12 jir meelahaasi oo kala imaam tirmidhi sidoo xadiidka ku soo warinayo waxa uu tilmaamayaa safarka markii uu ku jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam oo la socda adeerkii abi aalib iyo koox kale oo carbeed inay ku soo baxeen nin raahiba oo raahibkaasi oo baxiira la odhan jiray raahibkan iyo magaciisa waa yani tadaarub iska tiro badan baa ku jira jarjis waa la odhan jiray bay yidhaahdaan sergis way ku sheegaan cidduu ahaa waa isku khilaafaan waxyaabo badan laakiin markaynu eegna xadiidkaasi tirmidiya inta ugu badan lemala sanadkiisu ugu roon yahay ninkaasi raahibka bay u yimaadeen raahibka markii ay la soo degeenna wuxuu gartay astaamihii nabiga calayhi salaatu wasalaam dadku ka dhex baadhbaadhay dabeetana wuu helay wuxuu ku yidhi ninkani waa sayid alcaalamiin waa rasuul ilaahay buu noqon doonaayo kale maxaad ku garatay su-aala bay weydiiyeen dabeetana arrimuhu sheegay arrimuhu sheegay waxaa ka mid ahaa dhacdooyin baan arkay buu leeyay nebi mooyaane cid kale ka suurtalgaal ahayn wuxuu kaloo sheegay inuu khaatam nubuwa garabkiisa laga eego nabiga calayhi salaatu wasalaam shaabad nebinimo aba xaggan dhabarka kaga taalay garabkiisa oo timo qayb madow bar madow halkan ku taalla oo rasuulnimadiisa sheegaysay taana ka baadha buu yidhi waa laga helay dabeetana si fiican buu u soo dhoweeyey waxaanu abi aalib u sheego uu ku yidhi markaas wiilkan mar dambe shaam ha usoo kaxaynin waxaan uga baqayaa romanska iyo yahuudda kadib riwaayadkaasi waxay sheegayaan abubakar markaa wuu celiyey xadiidkan asalkiisa horta muran badan baa ka jira min xayثu sanad iyo min xayثu almatniba waayo matniga xadiidkaasi waxaa ku soo aroray in abubakar iyo bilaal ay la socdeen laakiin waa war aan jirin sida uu xadiidku u dhigayo matnigaasi sheegaya in abubakar iyo bilaal ay ku jiraan nuqaadul xadiid dhammaantood waa radiyaan ama iyadu waa daciif inta soo hadhay waa haabit bay ku sheegaan si kastaba ahaatee wuxuun buu sheegayaa xadiidkani marka la isku wada daro inuu ninka raahibkaahi ka dhex arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam astaan tilmaamaysa nebinimadiisii uu una sheegay laakiin marka min xayثu sancat alxadiid marka lala qabto culimmadu matniga iyo sanadkaba aad bay uga warwaramaan aad baanay wax uga radiyeen inkastoo culamada baray sugaan
kollayba waxaan laakiin ka sugmaynin waxyaabahay mustashriqiintu isku dayaan inay ka tilmaamaan oo ay yidhaahdaan sidii qur-aankaba ay mushrikiintii carbeed sheegayeen inamaa yucallimuhu bashar ama ay sheegayeen waxa uu cid kalu wax ka soo bartay ayay qaarkood waxay isku dayaan inay yidhahdaan nebi moxamed ba calayhi salaatu wasalaam waxba looma waxyoona ninkani waxoogaagii uu ka soo bartay ayuu dadka u sheegayay laakiin iyana waa hadal tiro aan sal lahayn waayo nin safari 2 saacadood oo meel fadhiistay wuxuu nin ka dhigaystay oo waliba ilmo yaro caruuro 10 jir ama 12 jir qadiyad nebinimo kama waranto marka waa iska waraan runtii radinna u baahnayn shaka kalena u sii baahnayn 2 saacadood ama saacad qada ama raashin la cunayay meel la wada fadhiyay baa wax lagu bartaa waliba aanay jirinna kitaab markaasi tawraad iyo injiishu maanta waa la helayaa tarjumaad carabiya waga tarjuma carabiyana ma jirin oo intaasi dheertay inuu nabi maxamedna waxna qori jiray waxna akhri jiray yani waa waxaan macquul ahayn in warkaasi oo kala la sheego laakiin waxa uu buu tilmaamayaa warka cumuumkiisa marka la isku daro inuu ninkani ka arkayay sifaadkii ama astaamihii nabiga lagu garanayay waxyaabaha taariikhda nabiga calayhi salaatu wasalaam qabla nubuwa ay ka tilmaamaan ragga taariikhda qoray waxaa ka mid ah inay soo wariyaan inuu nebiga oo yar oo 20 jir meelahaasi inay dhacday dagaalkii la odhan jiray xarbulfijaar oo waliba xarbulfijaar الرابعة bay dhacdaan yani 4 dagaal oo iska magacaaba jiray bay dhacdaan 4tan dagaal waxay dhex mareen baa la yiraahdaa nimanka quraysh iyo qabiilkii weynaa ee quraysh ka tirsanayd kanaana la odhan jiray wada socdo xilfi wadaaga iyo niman la odhan jiray qays oo caylaan labada qabiil baa dagaal la dhex mareen bay dhacdaan dagaaladan xataa culimada taariikh waxay tilmaamaan 3 dagaal hore iska munaawashaad buu ahaa yani waa la isu gogoodiyay ama la isu hanjabay ama la isu yara hub urursaday laakiin wax naf leh 3 hore ma dhicin baa la yiraahdaa kan afraad ayaa la yiraahdaa baa dagaal dhacay si culimada taariikh wariyaan waaqidi ibnu isxaaq oo aan sanad ku soo aroorin baa qisada laga wariyaa waxay yiraahdaan nin barraas la odhan jiray ayaa wuxuu laayay 3 nin oo qays caylaan kamid ah yani kan hore waa qabiilka kanaanada la yiraahdo ee qurayshina ka tirsanay dabeetana ninkan reer kale 3 nin ka dilay warkii baa yimi cukaad waa meel suuq ahayd oo tijaaro wax lagu kala baaxmushtareyn jiray baa warkii soo gaadhay warku markaa meesha soo gaadhay ayaa la isu dagaal urursaday quraysh iyo kanaano oo dagaalkooda uu hogaaminaya bay yiraahdaan xarb ibnu umayya ninkii la odhan jiray oo odaygii daaweynaa markaasi ahaa iyo qolada kale ayaa dagaal dhex maray dagaalkaasi waxa la yiraahdaa waxoogaa markii la istirayay markii hore waxay u muuqatay quraysh iyo kanaanaba in laga xoog batay gelinkii hore laakiin duhurayowgii meelahaasay soo rogaal celiyeen waxay u badiyeen markaa iyana markii dambe inay waxoogaa in badan ka laayeen laakiin casarkii goor ay ku dhadhowdahay ayaa koox quraysh ka mid ay dhexdhexaadin iyo wax isku dayday waxa lagu heshiiyey markaasi in dagaalka la joojiyo ee meydkana la tiriyo wixii meydka la isdheeraado markaa diya la kala qaato saas bay wariyaan culimada taariikh waxay riwaayadaasi markaa ibnu isxaaq iyo waaqidi ay ku darayaan inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo dhalinyaro oo 20 jir joogay laakiin dagaalka muu gelin bay leeyihiin gamuunada ayuu adeeradii u hagaajinayay uu siinayay laakiin wax ka asaxay ma jiro min xaytu sanadiyana marka la eego wax ka asaxay masaladaas inuu nebigu dagaal ka qayb galay hore oo qabaa'ila wax ka asaxay ma jiraan culimada taariikh waxyaabaha dhacdooyinkii hore ay ka waramaan waxa ka mid ah waxa lagu tilmaamo xilf الفضول ama xilf الطيبين xilfiga la yiraahdo waa heshiis dhacay bay yiraahdaan dagaalka dabadi heshiiska kani isagu inuu dhacay axaadiis sugaysa ayaa jirta oo waliba nebigu uu ka qayb galay inuu nebigu ka qayb galay way asaxday insha Allah ta'ala waana ku nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamayay inaanan شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام فما أحب أن لي حمر النعم وأن أنكسه أما روايات في قاركورنا يتلمامي لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو ادعي به في الإسلام لا أجبت ولو ادعي به في الإسلام لا أجبت يعني هو حديث في شيء النبي الله عليه الصلاة والسلام هشيس بانك قيب قلق هذا يفضل يدفك يجان كلا قيب قلق heshiiskaasi waxa lagu qabtaa la yiri gurigii ninkii la oran jiray Abdullah ibn Judaan
cabdullaahi ibnu judcaan waa nin maalqabeenadii ugu waaweynaa maka ka mid ah waa nimankay odhan jireen koobab dahabay wax ku cabaan ninkaa gurigiisa lagu qabtay laakiin waxaa la yidhahdaa nin wanaag badan buu ahaa marka samaka talinta iyo wanaagga la eego ninkaa gurigiisa heshiiskii lagu qabtaan ka qayb galay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam heshiiska inaan ka qayb galayna yacni aad buu nebigu ugu faraxsanaa wuxuu leeyahy maan weydaarsadeen geela casaas maanta haddii laygu yeedhana heshiiskaa mar labaad waan geli lahaa buu leeyahy heshiiskana waa heshiis ku saabsiisan cadaaladana qofka muslimkii mar walba uu taageeraya waxaa la yidhaahdaa asbaabbay keenaan culamaai taariikh ay sheegaan waxay yidhahdaan nin qabiilka zubayd la yidhaahda ka tirsan ayaa alaab maka keenay dabeetana waxaa ka iibsaday ninkii alcaas ibnu wail oday la odhan jiray ee sahmi odayadii quraysh ugu madaxadka ka mid ah alcaas ibnu wail baa waa camar ibnu caas aabihii caas ibnu wail baa ka iibsaday baa la yidhaahdaa caas ibnu wail markuu ka iibsadayna lacagtiibuu hore u siin waayey dabeetana ninkii waar adduunkaygii hallaysiiyo uu xoogaa sheegay waa loo dhegdhigi waayey ninkani maadaama uu sahmi ahaa qabaa'ilkii ay xilf wadaagga ahaayeen buu u tegey reer cabdidaar iyo jumax iyo cadiy iyo oo waxaa jirta qurayshi qusayi markuu dhintay ayay isku qabteen rifaadada iyo ciddii qabsan lahayd iyo siqaayadii ama zamzamkii cidda dadka ka waraabinaysa iyo xujaajta cidda waraabinaysa iyo waxaasaa la isku qabtay marka la isku qabtay ayay quraysh dhexdeedii ilmo qusayibaa xilfi kala samaystoy reer bani cabdidaar iyo kooxda kale ee reer bani cabdimunaaf ayaa isqabtay qabaa'ilkii quraysheeda kalena iyagay xilfo wadaag la wada kala yeesheen laba xilfoo iska macruufa buu ahaan jiray markaa jiray kooxdii markaa ninka kan alcaas ibnu wail sahmi buu ahaa markaa waa reer bani cabdidaar qoladii xilfo wadaagga la ahay ayuu u tegey waxba waa loo qaban waayey waxa ay sheegaan markaa wuxuu fuulay baa la yidhaha jabalu abu qubays dabeetana gabay uu dulmigiisa ku sheeganayo sida loo dhacay buu tiriyey bay yidhaahdaan gabaygiibaa waxaa maqlay bay yidhahdaan zubayr ibnu cabdilmuطalib dabeetana wuxuu yidhi war ninkaasi wuxuu sheeganaya wax laga taga maahae hala wada hadlo saasi daraaddeed baa guriga ninkan laysugu yimi baa la yidhi xilfiga sababtiisa kaasay ahayd baa la yidhaha laakiin xilfigu sababtiisu inay ka ahayd oo iska dhacda taariikhdu ay sheegta uun laakiin intaa saxda aynu haynaa waxa weeyaan in xilfiga kani jiray oo guriga cabdullaahi ibnu judcaan uu ku jiray oo xilfiga asalkiisuna wuxuu ahaa waxaa wada galay bay yidhahdaan reer banu haashim iyo bani lmuطalib iyo asad ibnu cabdilcuza iyo bani zahra iyo taym bani mura intaasoo qabiil baa xilfigan wada galay bay yidhahdeen daartii cabdullaahi ibnu judcaan ninka la yidhahdaana lagu wada galay waxaanu xilfigaasi ku salaysnaa unoo ahaa maka gudaheeda qof lagu dulmiyaa inaanu jirin ilaa iyo inaynu u hiilino mooyaane awel hiilku dee tolun buu ahaa ninkii tollana tolkii unbaa uhiilinayey ninkii tollaana waa la dafirayay laakiin xilfigani wuxuu ku salaysan yahay isagoo cadaalada ah cid kasta oo dulmi magaalada maka waa inaan dulmi ka dhicin cid kasta oo maka joogto oo dulmi laga galo inaynu u hiilino waxaana la yidhahdaa ninkana way uga soo qaadeen adduunkii alcaas ibnu wail ninkii la odhan jiray ninkii zubaydiga ahaa zubaydi waa reer yamaneed yani nin ah way uga soo qaadeen xoolihiisii xilfigani kaasuu ahaa waxyaabaha markaa intii taariikhdii nebiga calayhi salaatu wasalaam qabla nubuwa la sheegay uu galay waxaa ka mid ah heshiiskaa raggii galay ayuu ka mid ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yaraantiisii dee adeerkii buu iskala joogay abi aalib nimaan adduun badan inkastoo odayada quraysh wax la weydiiye uu ka mid ahaa laakiin nin caruur badan oo aan adduun badanna lahayn ayuu ahaa marka waxaa muuqatay xataa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ku caawinayey mararka qaarkood inuu shaqeeyo isagoo inan yara oo uu xoolaa raaci jiray maka gudaheeda waa ka axaadiista saxiixa uu tilmaamayo inuu shacbu maka calaa qaraariid inuu ku raaci jiray adhiga ama xoolaha markii uu nebigu waxoogaa leekaaday ee uu nin dhallinyaro fiican noqdayna baabka tijaaradda ayuu u weecday oo waxaa la tilmaamaa inuu tijaaradda ka qayb galay maalan xataa ay tijaaro wada lahaan jireen ninkii la odhan jiray asaa'ib ibnu abi saa'ib almakhzuumiy oo xadiidka maalan abi daawud uu warinaya iyo ibnu maaje iyo musnadu imaam axmedba ku sugan waa ka tilmaamaya ninkaasi markii uu yimi yowma alfath maka markii la furtay maalintuu ninkaasi u yimi wuxuu lahaa marxaban biakhi wa shariiki soo dhowow walaalkay iyo ninkii shariiga aan wada ahaan jirnay yani tijaarada wada lahaan jirnay culamada taariikhdu waxay sheegaan markuu dhowr iyo 20 jir marayay nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu safar kaxeeyey shaam ku socda oo gabadhii khadiijo la odhan jiray ay lahayd
وحلالية وحا كصابسا خديجة يقول كيدا روايات كصابسا ودمنا انت وغبضا لا يبونا والروايات كاسي أهل السير كوي وريان لكن علماء الحديث سندها المصدان لكن عموما يعني يدا مدوات دي الله هبا مران كمتشرو نبي عليه الصلاة والسلام إنه خديجة قرسدي خديجين يهيد هوين تقول الشيء عرورتي سودان مركا إبراهيم لغريبه إبراهيم ماريا القبطية أياد الشيء لكن لحدي عرورة كلابا وحاول الشيء خديجة إن هيدا حب النساء ما هوين كقوة وش عليه هي بل النبي عليه الصلاة والسلام مركز طول صو هذا القاضي ونادي وسبيسين وين بدن حسوسا شري حتى عايش يدو أي دمتي كما صيفت يعني خديجة عن نولين أي النبي عليه الصلاة والسلام سيدو هذا الهين شري وهذا الهين شري هدوه حقلا أما وحالة بحين أيو خديجة وحس شري دت إلا أصحاب طه اللوجة يو حسبورن شري وخديجة أصحاب كذا أما قرابة كذا أما دكادي يدور دمتي خديجة آد النبي عليه الصلاة والسلام ورد شري وحقيقة شيء ما أبى الجودي كراي إلى حد عايش مالتي دم يدور إن يراي كم هنا استوى شري إسلام قول الله عصر ما هذا ليس إلهي إن يركوه بدلي بكتره دبتنا النبي عليه الصلاة والسلام حقولي ألا يقوم بدلين وحي سما يسي عدي قشي ما شفته يعني يدور دمي بيني أيي الرميسة نفيا مال بوا إلى قيسته فكان النبي يقول حتريني وحيابه خديجة قشن إن لحدي عرورة مركب إبراهيم لقرر يبنا أفر تويل أفر تهبلات يلا بدي ويلبا يعني أفر تويلها قاسم وعروته وجوينا يا عبد الله ويرى لبدا ويل يا أفر هبلات وأهل زينب يا رقية ومكلثوم يا فاطمة إن لحدا عرورة أنا ويقول الشيء النبي عليه الصلاة والسلام إنتان رسالة اللي قصده دجنة لبدا ويل يجهري وبنتان أفر تهبلات لكن أفر طبوا إسلامين إسلام كانوا يسوق قارين لكن أفر طبوا مركب فاطمة لقربه صدق إسلام النبي قالوا لشي سوى بنتين النبي عليه الصلاة والسلام وح عرورة وضلي ودنيا كجت جاي فاطمة شفتي فاطمة أنا اللي بلاد كدي بيدما مركب النبي عليه الصلاة والسلام هو عرور ضلي ودم فاطمة وجود بيشي فاطمة أنا وحي جاريتي اللي بلاد النبي عليه الصلاة والسلام قداشي waxaan uga jeedaa yani arinta ku saabsan khadiija iyo guurkeeda waxaan leenahay waa arin sugan ama tafaasiisha qaabkii uu guursaday iyo qaabkay u xidhiidheen iyo da'diisu intay ahayd iyo iyada da'deedu intay ahayd iyo waa allaali wax ku soo aroray culamaa ilxadiis ma sugan ee ku soo aroray laakiin haddaynu iska sheegno lilmacluuma waxay sheegaan nabigu calayhi salaatu wasalaam 25 jir isagoo ah inuu safar kaxeeyey khadiija ay lahayd dabeetana uu xoolihii ku soo faa'iido uu soo celiyay wiil ay khadiija lahayd oo xoolaha la kaxeeyey ay baa uga warramay marka akhlaaq fiicnidiisii iyo dhaqankii nebiga iyo siduu ninkan dhaqanka wanaagsan uu ka arkay dabeetana khadiija waxay doontay inay ninkan guursato kadibna gabadh bintu wahab ina bintu wahab oo u sheegtay gabadhii baa nabiga la soo hadashay calayhi salaatu wasalaam siday sheegayaan yani riwaayadka taariikhdu kadib buu aqbalay markaas buu guursaday nabigu calayhi salaatu wasalaam waaqidi oo aynu naqaano culamaa ilxadiis yani matruukin agtooda yahay wuxuu ku sheegaa riwaayadiisa khadiija inay markaa ahayd 40 jir nabiguna uu ahaa calayhi salaatu wasalaam 25 jir ibnu isxaaq isaguna biduuni sanad wuxuu ku soo aroorinayaa رواية كلام وحبر دامين إنه أها خديجة إنه هيت سيدير يلا بتنجر نبغونا شن يلا بتنجرها علماء ذكر كم مدينة وحي أيدان رأي ابن إسحاق بيد هذا بقول وايو أفرتنجر ولا بيلي ويا ذاك اللي حفور ما ينادى شو يعني وعاد ثم كوا حلا يقارن ده شن أفرتن مال هذا ما كي مرة سين يعني المكرم هذا تفوقات كنت كأنه أنا لقاري marka culimada qaarkood waxay rajaxaan ra'yiga ibn isxaaq sheegaya bay yiraahdaan inay dhowr iyo 20 jirka ahayd inay u badan tahay maadaama lix caruura ay u dhashay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayan kan waxaan leenahay Madiina taariikhiyan markaynu eegno waa taariikh la soo arooriyay laakiin Madiina sanadahan uma saxin nabigu calayhi salaatu wasalaam yuu kala hadlay waaqidi ra'yigiisa isagu wuxuu leeyahay khadiija أبهاد وجريودي بقولي حرب الفجار هرتد باب وجريودي مكا أديركيد هي اللي ويدي الله خطبية ومكا جورية
laakiin imaamu zuhari qowlkiisa iyo ibnu isxaaq isna siduu soo warinaya waxay leeyihin may odaygu ma geeriyoone waa noolaayo odayga laftiisa ayuu ahaa ka gabadha bixiyey ibnu xajar alcasqalaanina fatxigiisa saas buu ku rajaxayaa in aabbaheedu ahaa ninka la weydiistay intaasoo qisaa isku soo duuduub sanad ahaan wax adag oo asaxay oo jira ma jiraan laakiin waxa asaxee sax ahin waxa weeyaan inuu nebigu guursaday calayhi salaatu wasalaam khadiija iyo inay u dhashay 6 carruura alla ka siiyey subxaana wa tacaala iyo inay naf iyo maalba la soo qaybsatay khadiijo gabadh aada u khayr badan ahay yacni ammaan waxa ugu filan in ilaahay salaan u soo diray yani axaadiista saxiixiisay sugayso waa ka nebigu calayhi salaatu wasalaam malakul jibriil uu yimi ee uu tilmaamayey khadiija in ilaahay uu salaan u soo diray idan khadiija waxaa ammaan ugu filan inay tahay saxaabiyadaasi uu alle subxaana wa tacaala salaanta u soo diray marka aynu eegno qabla nubuwa intii nebiga calayhi salaatu wasalaam aan nebinimadu ku soo degin dhacdooyinka la wariyo culamaai taariikh ay sheegaan waxaa ka mid ah kacbada dhisideedii iyo xukunkii uu kala xukumay carabi qadiyadaasi markii ay isku qabatay waxay sheegaan nebigu calayhi salaatu wasalaam culamaai taariikh say arooriyaan 35 jir meelaha markuu ahaa ayay qurayshi waxay damacday inay kacbada dhisto kacbadu bay yidhahdaan iyaga hortood markaan waxay ahayd radmi ama sukuur waaweyn oo dhagxan waaweyn bay ka samaysnayd oo dushuna qaawantay saqafna aan lahayn kacbada saa u taqaanin kacbadu waa daartan yar ee madow daartan xajarulaswadku waa dhagaxa yare koonaa kaga jira meeshu waa daar yar oo qol ah oo albaab laga gala leh xajarulaswadkuna waa rukunka dhagax yar oo kaga sii jira quraysh baa markaa daartan dhistay nebi dee ibraahim iyo ismaaciil baa markii hore dhisay wakti taariikh horay taasi ahayd laakiin tan dambe waxaa dhisay quraysh waxaa la yidhaahdaa markan quraysh ay meesha soo gaadhay iyagu dhagxan waaweyn bay ka samaysnayd oo dushuna qaawan tahay dabeetana waxay yidhaahdaan waxyaabihii loo hadiyeyn jiray ama la siin jiray baytullahi alxaraamkii lagu guri jiray ayaa tuuguu soo dhacday baabay sheegaan culamaai taarikh qaar ka mid oo wax ka qaateen meeshii waxay kaloo sheegaan in dee ay gabowday oo muddo badani ay soo wareegtay oo ay iska dundumaysay oo kale waxay kaloo sheegaan waktigaasi nebiga 5 sano ka hor intaan lasoo bixin oo kale daad weyni inuu maka maray oo derbiyadeedii sii daldalooliyo sii dhaawacay si kastaba ha ahaatee waxaa muuqata un inay u baahatay in dib loo dhiso qurayshina waxay qaadatay go-aanka ah inay dib u dhisto culamada taariikhdu waxyaabahay wariyaan waxaa ka mid ay leeyihiin waxay qurayshi ku heshiiyeen bay yidhaahdeen inay dhisaan kow iyo hanti nadiifa un in lagu dhiso oo waxay yidhaahdeen gabadh xun meher laga qaatay iyo xoolo ribo lagu iibiyey iyo xoolo la kala dhaco dulmiye iyo wixii xun oo dhan bay yidhahdeen waa inaynu ka ilaalinaa xoolo nadiif oo aynu ognay in si xalaal ay usoo baxeen oo keliya dee dadkuna weligiiba xumaa iyo samaana waa la kala yaqaanay ta kalena diintii nebi ibraahim ka tegayna waxba kasii harsanaa walidalik waxay yidhaahdeen xoolo nadiifa aan ku dhisno meesha tan laakiin dumistii waa say riwaayaadka taariikhdu sheegaan wax sanad oo saxiixa maan arag waxay kaloo sheegaan dumisteedii iyo kacbada duminteedii baa laga yara baqbaqay dabeetana ninka waliid bin almugiira la odhan jiray almakhzuumi ayaa ku bilaabay isagu bay yidhahdeen oo maalintii hore intuu soo qaatay madaraqiisa koore ka qoday dabeetna markaasay maalintaa cidi uguma tegin bay yidhahdaan oo maalinimaadii baa la arkay inaanu isna waxba noqonin meeshiina wax ka dumiyo markaasaa la yidhi arrintu waa hagaage si fiican ha loo dumiyo si kastaba ha noqotee ninkaasaa bilaabay bay yidhaahdeen laakiin isaguna markuu u qaatay bay dhahdeen madaraqa wuxuu lahaa allahuma laa nuriidu ila alkhayr ilaa waad ogtay inaanan wanaag waxaan ahayn u duminayn yani inaan dhisayo uun kacbada way ka baqi jireen waana xurmayn jireen way dumiyeen kacbadii markii la dumiyey waxaa lagu heshiiyey in dib loo dhiso dabeetana qabaa'ilkii carbeed ayaa qaybsaday dhagxantii meesha geli lahayd reer hebelow idinku intaa keena reer hebelow intaa keena reer hebelow intaa keena in waliba inteedii bay kun waxa ka asaxay meesha tan iyadana haddaan sheegno waa xadiidkii sheegayey inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga iyo cabbaas ay israaceen dabeetana dhagxanta markay soo gurayeen cabbaas uu ku yidhi war dhagaxani wuu ku sarsari doonaaye marada guntiga furo oo saar halkan oo dhagaxa isaga dhig
dabeetana uu guntigii furtay nebigu uu halkan saaray kadibna uu dhacay oo miyir beelay kadibna uu soo toosay isagoo le war guntigayga ii xidha guntigay xidha isagoo le guntiga loo xidhay xadiidkaasina wuxuu sheegayaa waa marka qudhay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu qaawismay yacni waxa uu tilmaamayaa caadaadkii jaahiliyadu ay lahayd inaanu nebigu kala qayb geli jirin calayhi salaatu wasalaam markaasoo qudhaa cabbaas yidhi war marada dhagaxa isaga dhigo xagga sare saar carabtaana gaar ahaan kacbada iyo agaarkeedii meelaha in la isqaaweeyo wax sii weynba may hayn waayo qurayshi waa tii samaysatay xeerarka lagu xajo oo ay ka mid tahay dadka dabadda ka yimaada qofku inaanu maradiisa uu sitay ku dawaafi karin allahuma ilaa inuu tuurayo mooyaane haddaad ku dawaafto markaa cid damboo xaqule inay xidhataa ma jirto waa inaad tuurtaa haddii kale bay idhaahdaan maro reer maka leeyihin waa inaad ku dawaaftaa markaad magaalada timaado reer maka waa inaad weydiisataa nin ka mida reer maka inuu ku amaahiyo ama kaa iibiyo maro dabeetana maradaa reer maka ay leeyihiin oo qura ayaa lagu dawaafi karaa bay dhahay cidda weydaa maxay samaynaysaa labadii huye uu haystana laxajeclo ka qabo oo aan rabin dee markuu dawaafo inuu iska tuuro kaa waxay idhahdeen isagoo qaawan buu dawaafaya isagoo qaawan bay markaa dawaafi jiray walidaalika waa kii nebigu calayhi salaatu wasalaam xajkii koowaad markii uu abibakar markii cali lasoo diray iyo abibakar wixii lasoo faray waxaa ka mid ahaa maxay inaan gaal dambe sanadkaa dabadii ku soo noqonin xaramkoo dawaafin iyo qof dambe oo curyaana qof dambe oo qaawan yani wuxuu kutusaya xadiidku in markii hore qaawanidu ay iska macruuf ahayd in la iska dawaafo maadaama uu nebigu mamnuucay qof dambe oo qaawani inaanu meesha tan dawaafi karin idan curfigii carbeed ee meesha iska yaalay qaawanidaasi wax weyn maysii ahayn waa ka aad arkayso isagoo dee dhowr iyo 30 jira in la yidhi marada halkan saaro oo iskaga celi laakiin ilaahay subxaana watacaala uu ka celiyey oo uu miyir beelay waxa ay tilmaamaan culamada taariikh soo arooriyaan waxaa ka mid ah markii dhismihii cid waliba inteedii soo dhistay ee meel la soo gaadhsiiyey ayaa waxaa loo baahday in xajarul aswadkii la saaro xajarul aswadkii markii baa qabaa'ilka isqabteen dabeetana awal dhagxantii hore la qaybsayay kani waa midh qure maxaa laga yeelaya qabaa'ilkii baa isqabtay annagaa saarinayna waxaa lagu heshiiyey albaab bay yidhahdaan ka mid a albaabada xaramka laga soo galo albaabkaa qofka inoogu horeeye ka soo galaa wuxuu inoogu gar noqo aan aqballa bay idhahdeen si baa lagu heshiiyey albaabkii ciddii u horraysay ka soo gasha bay idhahdaan say culamada taariikh sheegayaan ilaahay wuxuu ka dhigay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo dhallinyaro dhowr iyo 30 jira waxay idhahdeen waa moxamed alamiin raalli baanu ku nahay xukmiga iyo wuxuu inoo kala go'aamiyey sidaa awgeed ayuu wuxuu say sheegayaan culamada taariikh wuxuu yidhi keena go'i baa la keenay dabeetana dhagaxii isagaa qaado go'i buu bartan ka saaray qabaa'ilka oo cid walba odayadiina soo diraa la yidhi go'a daclada wada qabta go'i baa la wada qaaday meeshii markii la gaadhsiinay isaga ka qaaday oo saaray saasay aqbaleen waxaanay u dareemeen reer waliba de inuu meesha wax ka saaray maadaama odaygoodii go'a dacalka wax ka qabtay oo xagga sare u gaadhsiiyey inaanay hadhow noqonaynin manqaba yani wax laysu sheegto oo qola sharaf dheeraada ay tidhahdo annagaa berigii kacbada saan ka yeelay inaan cidina odhan karin saas baa lagu dhameeyey baa la yidhaahdaa waxay sheegaan culamada taariikh horta waxaa cad qurayshi kacbadu halkii ay markii hore ka dhisnayd qawaacidu ibraahim way ka soo yaraysay waxay yidhahdaan sababahay uga yareeyeen bay sheegaanoo waxay yidhahdaan maadaama ay ku heshiiyeen xoolo nadiifa mooyaane inaan xoolo kale la gelin xoolii nadiiftee lasoo ururiyaa gaadhi weyday bay yidhahdeen deetana waxay dhahdeen in xunoo kale iyo inaan ku darine daartuunaan soo yarayno seeskii daarta markaa halkii uu marayay laga soo gaabiyey oo meel ka sokaysa la keenay walidaalika waa kii nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam caaisha isagoo la hadlaya waa kii xadiiskii bukhaari ku tilmaamaya lahaa haddii aanay caaisha ay tolka ahayn qariibu cahd dad diinta ku cusub oo caynkana aan ka baqaynin inay shakiyaan ama dhib kale inay soo gaadho kacbada intaan dumiye buu nebigu yidhi ayaan waxaan dhismaha ka dhigi lahaa maxay qawaacidu ibraahim ayaan dib ugu celin lahaa oo dhismaha waxaan isaga daynayaa sideeda ahaatee dadka kan in waswaasa dhex galo la dhex cararo ayaan isaga daynayaa islaamnimada ku cusub ee islaamnimadooda ha iska haystaan laakiin qawaacidu ibraahim kuma dhisnay dib baan u dhisi lahaa waxaan filayaa caadiga cabdillahi ibnu zubayr baa mar mala dumiyey oo dib u dhisay oo qawaacidu ibraahim ku dhisay laakiin xajaaj iyo habarqabayaashii markii ay dileen kadib bay haddana dib u dumiyeen oo ay xaggii ku soo celiyeen marka weli xaggii yaraa bay jirtaa markii dambena culamada muslimiintu waxay arkeen war meesha haddii marna lasii dumiyo marna lasoo dumiyo dhibteeda badanaysa inteeda isaga daaya nebigu intaasu isaga daayo kaga tegay laakiin cabdillahi ibnu zubayr baa markaa isku dayay inuu qawaacidu ibraahim dib ugu celiyo saa daraaddeed waxaa la yidhahdaa waxay ka soo kaceen in dhulkii dhismo uu ahaa
عموما إنها سوحي نوران كرنا وإن يوغي قبل النبوة نبي عليه الصلاة والسلام انتي آنو نبي نقول سيرة دي سعام كي قبل النبوة ما كانوا تلمامنا وحقوق عنها إن عقل بدن ودقن وآمس بدن وحشود بدن ودك واحترى وقعنتي سفران تهي وآدو عقل بدن وأمانة دمان تدلقوا يقانه عدوى لبحث أعدادي سيوحكوا آمنان ورن لغو برطي وأنولي جبان لغو أرق وإلهينا إلاليه سبحانه وتعالى إلهينا إلاليه حتى وحيابها جاهلية كيرير الله يستطقوا اسكسم سمايان إلهي بكر دوري سبحانه وتعالى وعلى الأولي صنم معابد مصلا من ولا حادثي وكوت المامي زيد بن حارث بايغو طوافيان markii tawaafka la waday baan sanam soo taaftay buu dhabka si iidi qabla risala ka sanadana balay ku dayo marka la soo taafto ka soo hadana iidi yani hatta taabashadooda muu cuni jirin baa la ilaa waxa laaliya wixii loo qalo ala nusub sanamadoodan iyo alihadan iyo waxana ay caabudaan iyo qaraabintoodan oo dhan muu cuni jirin kuwan istaqaawiye iyo waxa kuma jiri jireen marka qulu maradiisa degta saaray markiina waa miyir beelay indhaa wuxuu kala qaaday isagoo izaari leh خصال كرنتي في عن عدن مركزي نبي عليه الصلاة والسلام ولها أنت سوى حين نسكيسو كوبينا وحي قصار سنا قبل النبوة حينو إيمان دورنا مركزي أنت ونبي النقضي عليه الصلاة والسلام أو أنت الرسمي جاي نوصانا أنت تن ونبي أقوال مختلفة علماء كصار وطنما أنتم كودوس كفي عيامها صحيح لكن وحل الرجحين الصدح يطبن سنضات ومكة جوجي صدق طبعا كاس النضاد ومكة جوجي علماء دولفت هذا ويسيك على قيبيان وقيب وحكوت المامان دعوة هوس أهانيد وودي إيوه قيب ودعوة كور وقود واقعي أو كور ودي وحين بلابد دونا مركاسي بالقيب تكوات إيوه مركي الله سبحانه وتعالى والنبي كردقي أما رسولك الله صادقي النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هذا النبي مركي فرتنشر كود واتي ayaa wuxuu jeclaystay in badan in uu iskaga baxo nimankan waxay caabudayaan iyo meelahoodan oo dhan oo khalwa iska sameeyo gaar inuu cidla isaga baxo iska taamulo dunida tan iyo saa Allah u abuuray subhanahu wa ta'ala uu fiirsado iska cibaadaysto waayo dadku diintii Ibraahiim xaniifka ahayd wax ka sii hadhaday uu baa jiray marka inuu iska cibaadaysto waxay waliba gaar ahaan culimada taariikh wariyaan رمضان هذا إنه بحجري إنه قال جري قد كاسي لورن جري غار حراء وقد وين وآدو بالله قد يرماها وقد آدو أكوين وين إن بورتن جبل النور ليدا هذا كوي الله عمدو إما كمرك حاجة الله تجيه مالها سي بورتا سكول لبانو قرآن وقد كقالانو سنة كسوت كذا واحد يسكب بدعة وحركة ما تجري قد كان بري النبي وقال له كصباح خلاص واحد ضمبو لا تكتقو لقى قبطة ما تجري قد كاسبوا النبي قلت جاي عليه الصلاة والسلام قد كبور دير بكرك كيا لمدة كوريسة يعني إنه الصاع كله يبقى بدن بالرجينية ساعات كل دواد من الهواء قادر يسقفوا إنه لقيه وبور آدو سريسة ما خلا يابه أنت وقفوا وضير آدو لوقال ولا يقرأ وما لا أدعي الله هل كاسبوا النبي قلت بحجري عليه الصلاة والسلام أو إسكجا عبادة سنجري هل كيسي سجوا إسكجوا مركاسي أيه وحى من ملك الجبريل نبي عليه الصلاة والسلام نبي نمدو انتان جبريل او ايمان وحي صامرتي اور كلا قديسان مثلا طلائع النبوة وحيابا لغت الماما جيرو نبي قو دريمي جيري مثلا سيدا حديثكي صحيح مسلم كقصو كان نبي قو حلاي دقحبان قرانا يا مكة السلامي جيري دقح مركو صامرة ونبي السلام عليه الصلاة والسلام وانت انو نبي نقضي دقح السلامة معجزة ما وحيابي الله سبحانه وتعالى ونبي يسكو كراميه بكمده وحكمده هيد ووحي وسو ري نبيغا لخدي بلاده هره وحا ريو والريون جري لكن حديثي صحيح كسغنا سيدو شيغيو رياضاتي مثل فلق الصبح بوارك جري رياضه انبياء رياضه ددك لما ميد ددك عادي قفك عادي markuu riyoodo riyadiisu adqaatu ahlaam inay tahay dhadhab shaytaan inay tahay waa suurtagal yani wax shaydaan waxyooday inay tahay waa suurtagal soo nabigu ku sheegay
waxa kaloo suurtagala inay iska dhadhabtay wixii uu maanta soo aragkuna inay maskaxdu soo celisay waxa kaloo suurtagala wax waxyiye inay tahay wax khayr qaba oo malag iyo cid u sheegtay inay tahay laakiin mar kastaba iyadu tafsiir bay u baahan tahay tafsiirkeeduna mar kasta lama haleelo in badan waxa laga yaabaa si aad moodayso si aan ahayn inay tahay yani siday kuugu soo baxday inay wadatay uma badnaa ama riyada nebiyadu iyadu waa waxyi ru'ya alambiyaa waa waxyi tan adiga riyadaada caadigaa waajibku saaran maa adilada sharcigana ka wada caamadu waxay yidhahdaan sheekh hebel barriyado sheekh hebel riyadiisu isagaa ku kooban haddii loo bishaareeyay hadday wax saxaydii haddaan ahaynba wax diinta ka mid oo daliil galana maaha ee daliil wuxuunbaa diinta ah sunno iyo kitaab laakiin riyada ambiyadu way ka gedisantahay riyada ambiyadu iyadu waa waxay rasmiya walidalik baa qur-aanka waxaa ku aragtay nebi ibraahim in uu ru'yo ku arkay maxay wiilka inuu qalo ismaaciil inuu gowraco dabeetana fuli baa la yidhi iyadu waa waxyi nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyigiisu wuxuu ku bilaabay markaasi ru'ya saadiqa weliba nusuustu siday sheegayso ru'yadaasi 6 bilood buu waxyigu noocaa u socday 6 bilood buu waxyigii nebiga usoo degayay uu ugu imanayay isagoo hurda uun loo waxyoonayay oo loo sheegayay laakiin waxaa loo sheego sida waagu u bariyo waagu yani markuu bariyo dee qof waliba waa arkaya mitla falaqi subxi oo kale waxa uu saa ugu riyoodaa sidaa cadceed buu soo baxaysa oo kale wax loo hubo oo loo arkaya bay ahayd intaa kadib walidalik baa maalan sheekhana raxiq lmaktuum kale ayaa wuxuu leeyahay xataa xadiidkii sheegayay juz-un min 46 ka sheegayay wuxuu ku tafsiirayaa nooca kane wuxuu leeyahay maadaama 23 sannadood ahayd fitradii nebiga loo waxyoonayay 6 biloodna ay riyadu ahayd waa juz ka mida buu leeyahay min 46 oo 46kiiba xaquu ka soo ururiyey oo uu leeyahay waa waxyigii nebiga oo 46 meelood loo qaybiyo meel ahaan yani 23 sannadood baa nebiga loo waxyoonayay 6 biloodoo ka mida waxay ahayd maxay riyo marka waxa weeyaan marka intii loo waxyoonayo o dhan la isku daro 46 meelood meel ahaan ayay ku dhacaysaa kadib nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu doortay inuu meeshaasi iska tago godka qaaru xiraa la yidhaahdo godka qaaru xiraa la yidhaahdo ayaa waxyigii ugu horreeyey ku soo degay culimmada taariikhda qortaa waktigaas sida ay u calaamadinayaan maalan sheekhan saaxib araxiiq almakhtuum wuxuu leeyahay waxay ahayd maalin isniineed oo ramadaan ay 21 tahay bisha August 10keedii 610kii miilaadiyada oo da'da nebigu ahayd 40 sano oo qamariya yani tadayaxa laga tiriya 40 sano iyo 6 bilood iyo 12 maalmood buu leeyahay haddii cadceedda laga tiriya la eegana 39 sannadood 3 bilood iyo 20 habeen buu ahaa buu leeyahay isagu saas uu xisaabiyey xisaabtani xagay ka timi kow in waxyigu isniin soo dego waxyiga nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu isniin ku soo degay axaadiis baa cadaysay fiihi wulidtu wa fiihi unzila calay daka yawmu waladtu fiihi wa yawmu yubcad wa yawmu bucithtu yani xadiidkii kale waa kii tilmaamayay idan axaadiis baa ku asaxday isniin inuu nebigu dhashay calayhi salaatu wasalaam axaadiis baa ku asaxday oo saxiix la hubo waxyigu inuu isniin ku bilaabmayna axaadiis baa ku asaxday kaasi waa mid qur'aanku wuxuu kaloo sheegay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan bisha ramadaan buunbuuninteeda waxaa ka mida baa ilaahay leeyahay waa bishii qur'aanku soo degay yani ilaahay subxaana wa tacaala hadalkiisii wuxuu u doortay uu nebi moxamed kula hadlayay ee ummadda loo soo diray inuu soo dego bil ramadaan ramadaan markaa fadaa'isheeda waxaa ka mid ah inay tahay bishii samada iyo cirku yani samada iyo dhulku isku xidhmeen ama bishii waxyigu uu soo degay ayay tahay waa ka kaloo qur-aanka ilaahay ku tilmaamayo qur-aankani inuu soo degay inaa anzalnaahu fii laylatin mubaaraka inaa kunaa mundiriin habeen barakaysan habeenkan barakaysanna waata aayadda kale tilmaamaysa maxay inaa anzalnaahu fii laylati alqadr habeen laylat lqadri inay tahay maalan sheekhan xisaabkiisan haddaan dib ugu noqonno wuxuu isu geegeeyey kow inay ramadaan noqoto ramadaan wuu gatay mar labaad wuxuu rabaa inuu ramadaan maalintay ka noqonayso culamada taariikh khilaafaad badan bay soo arooriyaan qaar waxay yidhahdaan 17kii bay ahayd qaar waxay yidhahdaan maalintii 7aad bay ahayd qaar waxay yidhahdaan 22kii bay ahayd
isagu xisaabu isu geegeeyo wuxuu yidhi kow maadaama uu laylatulqadri soo degay laylatulqadrina axaadiis baa sheegaysa inuu watri yahay habeen kisiya inuu yahay oo aanu tiro dhan inaan ahaynee tiro kisiya inay tahay 22 habeen noocaasi oo kale idan qolada sheegaysa buu leeyahay 14 bay ahayd iyo maalmahaasoo dhan ka baxa mar labaad buu ku noqdo wuxuu leeyahay sida loo xisaabiyo waxay kaloo tilmaamaysaa buu leeyahay waa inay isniin noqotaa watrigaasi waa inuu isniin ku beegmaa buu leeyahay dabeetana wuxuu eegay 4 isniinood ee ramadaantaasi ku dhacaysay ramadaanta 4 isniinood waxay kaga beegnayd buu yidhi 7 14 22 iyo 28 idan wuxuu yidhi 28 iyo 14 tuuriyaga waayo iyagu waxa weeyaan waa tiro dhammaystiran witriga way ka baxsan yihiin wuxuu soo qaatay markaasi waa inay noqotaa maxay 7 ama 22 waxay xadiistu tilmaamaysaa buu leeyahay al-10 al-akhir in laga daydayo witrka xisaabtiisu intii isu geegay isagu wuxuu leeyahay 22 ramadaan oo isniina ayuu ahaa buu isagu qabaa habeenkii waxyigu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku soo degay ala kulli xaal intaasi waa xisaab la isu geegay laakiin wuxuu baan garanaynaa inuu ahaa habeen laylatul qadri wuxuu baan garanaynaa inay ahayd bil ramadaan waxaan kaloo garanaynaa inay ahayd maxay isniin intaaba nusuus loo adeegsan karo ayaa jirta nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu waxyiga kani ku soo degay caaisha waa tale nabiga calayhi salaatu wasalaam wixii ugu horreeya ku soo degaa waxay ahaan jirtay bay tidhi riyo dabeetana waagu markuu bariyo sida waa beriga buu arki jiray kadib baa cidlada la jeclaysiiyey gaaru xiraa ayuu ku taxanusi jiray taxanudku waa tacabud ayuu iskaga cibaadaysan jiray waxoogaa habeenaaba intuu yimaado oo khadiijo u yimaado uu raashin qaato ayuu muddo maqnaan jiray markuu raashin ka dhammaada buu soo noqda haddana in raashin oo kale u qaataa meeshaasuu saa ugu cibaadaysan jiray markii dambe ayaa waxa uu yimi malakuljibriil baa markaa wuxuu ku yidhi iqra akhri nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maa ana biqaari mid wax akhriya anigu ma ihi qaala faakhadanii faqatanii xataa balaga mina aljahd xadiidku waa kii tilmaamayay nabigu calayhi salaatu wasalaam markaan idhahdo waxba ma akhriyo wuu i qabanayay jibriil dabeetana xoog buu u cidhiidhiyayey ilaa iyo aan daalo ama ay naftu isugu kay timaada buu leeyahy markaasuu isii daayey dabeetana wuxuu yidhi buu yidhi akhri haddana mar labaad baan idhi buu yidhi ma aqaan sida wax loo akhriyo haddana wuu i qabtay buu leeyahy xoog buu ii qabtay ilaa iyo sidii oo kale wuu ii cidhiidhiyey dabeetana wuu isii daayey markaas buu wuxuu yidhi akhri waxaan idhi buu yidhi ما أنا بغارب مر صدحات كيبو قبطي بو يدو يسي داي بو يدي اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آيات كاسا سود دقي هو قرآن كإنت يقوه الرئيس سود دقتي انت أسبو يدي بو يدي آخر كدب وكتقي نبي عليه الصلاة والسلام وبقي حتى بقوه وكقاري حد حديث قاركود ay tilmaamayaan iftacashat bawaadirun yani bawaadirka waxa la yiraahdaa muruqan yare garabka iyo luqunta isku xidha kuwani baqa daraadeed ay gariireen gurigii baan tagay buu leeyay anigoo khadiijo ku leh zamiluni idada baan idhi buu yidhi dabeetana waa la daday markii cabsida ay ka baaday ayaa khadiijo yidhi buu yidhi maxaa dhacay warkii buu ka sheekeeyey markaa warkii ayuu ka sheekeeyey wuxuu yidhi naftaydaa baan u cabsaday sidii loo galay buu ka sheekeeyey khadiija gabadh aad u caqli badan bay ahayd caqli badnideedaasi waxyaabaha tilmaamayana waxaa ka mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay ku leedahay ilaahay baan ku dhaartay alle weligii ku hoojin maayo ilaahay weligii ku hoojin maayo waayo waxay leedahay dee wahal jazaau lixsaani إلا الإحسان قف هذو سماها سمايو أبالكو هلانا وناقو وحيلا قف وناق السماية بدا هانشل إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق حيلا هذا واحد هاي قفك علص أما الدينها كعس هذا أما الدبا كعس هذا مش كوا علص مد وحكا حنبارو وحكا قاضى بعض هاي كان وحبها يسن مد وحسية بعض هاي مرتدى كصورة هاي dhibaatooyinka mid dadka uga gargaara baad ahay inay qof wanaaggaas oo dhan samaynayeen dhibuun iskaga timaado macquul maaha bay tilmaamaysaa laakiin ina kaan bay tiri waxaynu u tegaynaa waxaa jiray nimay iyada ilmaadeeriyiin
adeerkeed dhalay oo la odhan jiray wariqa ibnu nofal ibnu asad khadiija bintu khuwaylad ibnu asad bayana yani ilmaadeer bay ahayd ninkan ay ilmaadeerka yihiin nasraaniyadu qaatay masiixiyadu kristan buu noqday marka luqada cibriga buu wax ka yaqaan yani cibrigu waa luqadii yuhuudda ee kutubta markaa ku qoraydna waxbuu ka yaqaan marka waxay leedahay arrinkani ma aha xume aan wax weydiina ninkan caalimka ina keen way kaxaysay nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkaas bay u geysay ninkan markay u geysay waxay tidhi bal dhegayso in adeerka hadda waxa uu kaaga warramo bal ii warran buu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay buu u sheekeeyey qisadiisii buu u sheegay sidii wax u arkay ama riya ha noqoto hadduu ahayd ama intii jibriil uu kala kulmay yani wixii uu dareemayay wixii u arkay buu u sheegay markuu u sheegay buu wuxuu ku yidhi markaas wariqa markaa wuu gartay in ninkan loo waxyoonay wariqa bnu nofal kow dee maadaama ahlu kitaabha wuxuu hayay bishaaraadkii hore ee in nebi soo baxay yani ahlu kitaabka agtooda waxa yaalla saa dee ilaahayba qur-aanka ku sugayo وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد إلهي القرآن كسوغيا إن يهرأوا هيين بشارة عيسى وصي شيغي وشيغيسه إنه النبي محمد إيمان دونه أحمد نبي الله يرضى إنه صابح دونه التوراة دي إنجيشنا هيان بدن بلا تحريفية لكن قار كم إذا حتى إلا هدا مجا عيسى لو هيا مثلا قوة مجا لو هيا وحا كم إذا توراة يجوا توراة السامرة مثل يرضى هي إنجيل برنابا أو كله إنجيل برنابا إمكان إنجيل أفراهم بيت هيستان كريستوف أفر إنجيل يعني أفر من وحي قرين أو كل شيء جيان وعيسى وحيانو خلقوا لنا مركا كان شناد قرني شناد ميلادي أي كنيسة ضفرت أوديت وأيو إنجيل برنابا وحا وديدين هي عقيدتنا يمكن هيستان سدح ذا إله يسكو إله إن عيسى إله أبو ديدين وحرميسين عيسى النبي عليه الرسول كيساها الشجاع وقدوا مركا حقيقة قونا هيان لكن كنيسة قرني شناد بي كام ممنوع ضي ويودي دي مخطوطة دي سيمال بيس كجرد بريد دويت أيها لقى صار ونن راهب وبا كسو صار فاتيكان كوريبا يعني كاتوليكا ميشو هذا أيوم بقى أرقونا كسو صار وإسلام الله وتلمام إسلام على كل حال كابر دويت بالصو صار وحكى له كاتا غيريس هنا أو شيره أن البحر الميت درسي جماشا لدا أردن يا جار كده أن حفريات كل كان لقطة لقى صار وحيابه دكتي وهراي كتجين آثار كودي أي واحد لقى صار آثار يدنا إنجيل برنابا وحشيجة يوكل يكون قرطي نصوص في آيات وحشيجة إنجيل برنابا ماذا يكون قرطي وحشيجة يدنا النبي محمد يعني كل واقعي إسحاق قبي أفرطنات وحشيجة يعني لفظك لا إله إلا الله محمد رسول الله ولفظك أبا سيدي سوق قرط أنا جيش ودن حتى هيستان صار كم ده مثلا الأستاذ عبد الله الداود الأشوري نيكي لورنجري وودات كريستيان وإسلامي صوبت كو إسلاميين وحويان وحلاية هي ترجمة لسو ترجمة أفكي عبري لقسو ترجمة لقلطية حتى إلا هذا لغة يقولي إنجيل لوقا يعني لوقا إنجيل كالله يدهضو مثلا شابتر كافر طبناد آيات اللبات وحقوق رب لي الحمد لله في العالي وعلى الأرض إسلام وللناس أحمد ترجمة عربي جواعن كاسبولي ninkaas waa kitaab buu leeyahay la yiraahdo bible-ka iyo wuxuu maxamed ka sheegay waxa la mid ah anajiisha xataa imka haystaan rag badan baa tilmaamay inay wax ku jiraan sida uu Ahmed Didat ilaahay u fudaydiyo kitaabkiisan yare uu ku tilmaamayo bible-ka iyo maxamed wuxuu ka yiri ala kulli xaal waxaan leenahay ninka kani taariikh badan buu hayay oo sheegaysa in uu nabi soo bixi doono koow ده يهودنا واتيسي شيء سبا مدينة غير مدينة انت بدن وحي إسلام كود وديري وحكم دها يهودي لدى جنيدو أنصار تكسي أورنشرتي مركا ويدين يماضو مركا النبي قاعد عصب صابحه أيانو دي تجيبين انت الرعنو يدكو حق بدننا لكن مركا النبي عرب نقضي بكوي عدن قال دي يهود هاي قال دي عربنا مركا يركي النبي عصبابه إلى يلا يدين كديريني وكا يهودي يدكسي هنشبي سي وحيابات المام يعني آثار لهي وحكم ده مثلا يد وحبا فيليا سند حسن إنه كسارة سلمان الفارسي هي إسلام نمديس
salmaan alfarisi saxaabiga la odhan jiray culamada taarikh waxay sheegaan da aad u weyn buu jiray waxaa laga sheegaa 250 sano bay taraajimtu qoraan inay da'diisu dhaafaysay ala kulli xaal salmaan alfarisi taariikhdiisu waxay sheegaysaa ilaa 7 raahib inuu soo kala maray oo kala dambeeyay oo kolba mid uu yimaado oo markuu raahibkaasi dhimanayo yidhaahdaa ii dardaaran markaasuu yidhahdaa cid diin saxa haysata garan maayo ninka hebel la yidhaahdo wadaad hebel ee meel heblaaya deganuun haddaad gaadhi karto ninkaas baan ku ogay wax saxa wuu u taga kii u dambeeyaan idhi buu yidhi war ii dardaaran wuxuu yidhi garan maayo diintii saxa ahayd cid dambe ay ku hadhaye haatan waktigii nebi soo baxayey baa jooge e nebigaa uun haddaad raadcayn karta raadcee dhul timir loo caynkaas iyo madiinuu tilmaamteedu u tilmaamo inuu ka soo bixi doono iman doonee nebigaa uun raadcee salmaan alfarisi isagoo nebi raadcays u soo galay madiina dabeetana carabtiiba intay afduuftay bay iibiyeen oo addoon bay ka dhigeen isagu diin buu raadcaynayay laakiin inta la qabtay ayaa la gaday dabeetana waa la addoonsaday isagoo addoonsigiisii iskaga jira buu nebi maxamed yimi calayhi salaatu wasalaam madiina dabeetana calaamaadkii loo sheegay wixii oo dhan buu xaqiiqsaday saas buu ku islaamay calaa kulli xaal waxaan leenahay aathaar badan baa jirta oo sheegaysay nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisii waraqat ibnu nofal markaasi wuxuu fahmay inuu ninka kani yahay nebigii la sugayey waxyigiina uu hadda bilaabmay markaas buu wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay buu leeyay waraqat ibnu nofal wuxuu leeyahay waxyiga kan kugu soo degay waa kii ku soo degay oo kale buu leeyahay nebi muuse waa kii ku soo degay ee shallaatadayda ama qoomamadayde bal maan dhallinyaro ahaado waraqat ibnu nofal markaa wuxuu marayay bay yidhahdeen da aad u gabooba oo xataanu indhaha si fiican wax uga arkayn idan markaba wuxuu bilaabay inuu isqoomameeyo oo ilaahu yaa nin yar iga dhiga aan kuu gargaaraya buu leeyahy markaasuu wuxuu yidhi bal ma noolaada buu yidhi maalinta tolkaa ku saari doonaan yacni waxaad arkaysaa in sifaadka nubuwada ee uu nebigu leeyahy inuu wariqa hayay oo ay kutubtay hayeen ay markaasi ku qorray marka wuxuu u sheegayaa wariqat ibnu nofal nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam in la bixin doono inuu nebiyey oo waxaan ku soo degay waxyiyey oo carab ay la coloobi doonto oo reer maka ay maagi doonaan oo dabeetana maka laga saari doono oo uu hijroon doono ka warramaya markaasuu wuxuu yidhi ilaahow bal ma noolaado maalinta ay ku saarayaan tolkaa aan kuu gargaare laakiin nebigu ma ogeyn in tolkii saarayaan xumana iskuma ogeyn inuu nin fiican oo tolkii u wanaagsan yahay ayuu isku yaqaanay dee dadkaad wanaag u samaysaa ku xumaynayana ma aha wax la odoroso oo dadkaad wanaag oo dhan kaa helay inay hadhow xuma kaaga abaalgudayaan ma aha wax la odoroso saa daraaddeed buu nebigu wuxuu ku yidhi wariqa awa mukhrajayahum ma anigay saarayaan buu ku yidhi waraqat ibnu nofal ba wuxuu leeyahy maalinta lagu saaraya maan joogo waa kuu gargaaraya nebiguna wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam awa mukhrijayahum ma anigaa lay saari doonaayo oo tolkaybaa ay saari doona o ay eryi doonaa haa buu ku yidhi wariqa waayo wariqa nin waa yeela oo yaqaan dacwada iyo islaamku suu u kora buu ahaa wuxuu yidhi waxaanaad la timi cidi lama iman ilaa iyo colaaddiisaa badatay yacni rasuul ma soo bixin ilaa iyo shayaaiinu lisi waljinna way isugu tageenoo colaad baa lagala hor yimi haddaan soo gaadhana buu yidhi maalintaasina ansuruka nasran mu'azara waxaan kuu gargaari doonaa buu yidhi gargaar xooggan laakiin alla ma qadarin ee waraqat ibnu nofal wuu dhintay nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu dareemay in waxyi uu ku soo degayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dareemay ama wuu degay oo nin caalima ayuu u tegey oo u sheegay waxa kan inuu waxyi xumaanaa khadiijina markii hore ay sii dejiso u tilmaamtay dadka wanaagga sameeya wanaagun inay la kulmaan kadib wakti yar baa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyigu uu ka go'ay waktigaa uu ka go'ay culamada qaar baa sheega 3 sano ahayd qaar baa 2 sano iyo badh laakiin saaxib araxiiq almakhtuum isagu wuxuu leeyahy war ayaamo yar bay ahayd culamo badan baa qabtay inay ayaamo ahayd oo ka yarayd waktigaa qolada sanawaadka sheegaya sida ibnu xajar iyo rag la mida laakiin saaxib araxiiq almakhtuum isagu wuxuu leeyahy war 8 cashaa bay ahayd isagu tiradiisii unbuu dib ugu noqdo wuxuu yidhi waxay ahayd uun 21kiibuu ku soo degay ramadaan intii ka harsanayd unbuu ka maqnaa dabeetana shiwaalkawdeedii buu soo noqday buu leeyahy oo waxyiga dambe uu soo degay yaa ayuha almudathiru yah 10kaa casho ayay ahayd baanuu leeyahay fatrulwaxyigu ama intii waxyigu uu ka maqnaa nebiga calayhi salaatu wasalaam
wararka sheegaya yani bukhaari xadiidkii ku yaalay ee dheeraabaa waxaa ku jira balaaqaad imaamu zuhari uu warinayo wa fiima balagana buu leeyahay in nebigu jibriil iyo waxaan intuu ka baqay uu isku dayay inuu iska tuuro buur oo markuu buur sidaa iska tuurba uu jibriil istusayay laakiin culamadu waxay leeyihin waxaas ma ansixin bukhaarika ku qoranna wa fiima balagana buu leeyahay waa balaaqaat yani waa mursal ma aha xadiid sanadkiisu saxiix yahay oo uu taxan yahay sida xadiidka qaybtiisa hore marka dadka badh baa ku kadsoomo oo is idhaahda xadiidka bukhaari wariyo dabeetana sidaa walidalik baa culamo badani leeyihiin waxba kama jiraan ibnu xajar alcasqalaani baa ka mida balaaqaadkaasi wuu radinaya calaamat alalbani baa ka mid ah calaa kulli xaal cismada ayaa u diidaysaa cismatu nubuwa inuu isku dayo inuu isdilo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaan leenahay waxbana isma dilin meel kuma niyoonin inuu iska tuuro waa degay markii ay gabadha iyo khadiija iyo waraqaba isugu tageen nebigu calayhi salaatu wasalaam waa degay waana yaqiinsaday inuu nebi yahay kadibna waxaa bilaabmay waxyigii iyo isdaba socodkiisii wallahu aclam wabillahi tawfiiq